السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان سلامنا ولا لها صوماليات ملكستا جوكتان سو ودا دوادا انت كحرن بيشكيغا حمدي قلقعل ملكستا جوكتان ولا لها صوماليات آد بان إني سلاميا سو ودا دوادا إن شاء الله إله إذن كيسا صاد هربا نوغا برتين برامشيدنكا هويوينكا صوماليات ودبناها amba maxaa la dhahay dibku ku dhacay aan soo gudbin jirno kale adinkuna aad u caawin jirteen oo kale ayaan caaw u soo gudbinaynaa hooyo Soomaaliyeed ma garanaysaay ku nool wadankeena hooyo calaykum salaam xamda soo dhawaada walaal soo dhawaada daahir sidoo kale muniir sidoo kale muniira soo wada dhawaada insha Allah muna sidoo kale soo wada dhawaada walaalaha Soomaaliyeed maryan dhamaan soo wada dhawaada walaalaha Soomaaliyeed oo meel kasta joogtaan walaashan xamdi galgacal aad hore uga barateen inay dumarka Soomaaliyeed u hiiliso amba garab istaagto amba hooyooyinka dhiban aan ma garanaysaay wuxuu qabanay insha Allah hooyadan hooyadii ka horeysay oo ogtihiin maxaa la dhahay Muqdisho ku dhibaataysnayd ما شاء الله وإني سو مهد علينيسي انتي waxu dirtay waad ku mahadsantiin baan leeyahay insha Allah lambarka hooyada imka khadka inoogu jirta insha Allah khadka kiin baa la dhahay inoogu jirta hooyada khadka inoogu jirta telefonkeeda meesha waaniga ku soo qoray waa furahaas aad arkaysaan ka bilaabmayo maxaa la dhahay 25ka ilaahay idinkiisa qof kasta oo wax awooda waa inaad hooyada u dirtaa qisada ayaan gudo gari doonaa insha Allah iyo hooyadan siday maanta inoogu soo jeedinayso cabashadeeda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kiin may maqashaa walaal kiin maxamed soo dhaw walaal waan ku maqlaa soo dhawow ummad badan baa ku daawanaysa ummadda salaan magacaaga saddexna u sheeg insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق واكين محمد نو وحان جوغا مقالا لدهو بير او برعو حوغا يرو جفتا وحان هايهو يدبانا حنونسان حنونك HIV قلنول عرور اقوانا بان هايستي اون شقليسان ايما كان حوغا لها بعدين وحابان اركي nin Mareykanka ka yimi waxa baan shirkanaaba aqoonta kula korinaya aan ku guursado dhahay waa iska guursaday xanuunkaas uu qabay markiiba uu dhintay anigina xanuunkii wuu soo ritay kadibna anigu waan jiranahay carruurtayda waa la takoora aniga waa la takoora dhibaato fara badan baa ay haysata wax alla waxaan haystaa ma jirto xalay ma cashayn saaka ma quraacan wax alla waxaan haystaa ma jirto waana radanahay haddii aan haysto waxaan mariyo ku siisto aan xaragoonayo oo waxaan cunaan haysto dad wax ay dhiilaayeen malaha waa dadkaasaan ka mid ahaan lahaa laakiin yacsanaanta iyo baahida haya wax walba laygu wax walba ii fududaynaysa in laygu yidhaahdo sorry abay adke insha Allah waxa weeye xanuunka waad ka bixi doontaa markii ugu horeysay waxaad ahayd hooyo Soomaaliyeed ubadkeeda u shaqaysanaysay caruur aagoon ay haysatay sidaad imika ma garanaysaa aan hadalkaaga ka dhadhansanayno marka caruurta aagoonta aad u shaqaynaya hooyo aabato u ahaa xalku ninka ka yimid markaas ay isku barateen xagee ku guursatay ubad ma u dhashay bal noo faafay wiil ninka wuxuu ka yimid xaggaas iyo Yurubtaas buu ka yimid Ingiriisku ka yimid markaas waan isguursanay laba cunug baan u dhalay uu dhintay markiiba xanuunka u dhintay laba ciyaal aad dhashay ku soco marka labada caruurna way caafimaad qabaan caruurtii horena way caafimaad qabtaa aniga ayaa jiran caruurta todobaan haystaa 5 agoon oo hore waan u shaqaysan jiray labadan hadda igu agoomoobay xanuunka 12 bilood baan qabay sanad baan qabay hadda wallahi billahi dhibaato aad u badan baa haysata xoolahayga la takoora anaa la takoora waxaan ku ribooyada biyaha wiil ayaa noo shubay biyaha oo wiilkaas biyaha uu nagu sadaqadaystaa laakiin han nagu sadaqadaysta laakiin waxaa jirta inuu na takooro oo maxay hayto yiraahdo warashu reerkaas jirana ma shubta yani geeda waxaan kaas oo kale oo sadaqadiisina wuxuu dhimaysa marka walaalaha Soomaaliyeed ee adduunyada kala jooga waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan dhibaatada ay isaga soo caawiyaan waan aradanahay xataa waxaan isku qabto ma haysto caruurtayda way aradan tahay waan dhibaataysana wax yar waad mahadsan tahay hooyo wax yar insha Allah siirada jiibalaanahan hadda insha Allah hooyadan Soomaaliyeed waad aragtaan dad baa waxay soo qorayaan hana abukar dadka masaakiinta ay soo gudbiso codkooda telefonkeeda meesha ku qoran jirtay iyo akoonkeeda ayadii lacaguhu ugu dhici jireen laakiin ani telefoon aan leeyahay meesha kuma soo qorin akoon aan leeyahay kuma soo qorin waxaan ku soo qoray waa telefonka hooyadan wuxuu u leeyahay maxaa la dhahaa sad
محوالات كستو سومالي لان كتالا أم بسومالي كتالا هداد وقدرتيد موبيل كيد أيا الله وشبيا مقعد محال هاي صدحنا كلي كين محمد بقى قران هو كين محمد بقى نجا قران كلي مقع صدحات بالقدرة وين تاسي حوارد دودك مرمر بيوديسا كين محمد محل غراعيا مقعي كين محمد نور كين محمد نور بقى هو يدنا لدها تلفن كده ماشان كسو قري قف كستو اسلام او صدق الله بحيا هويا درين او waxa dareenta hooya tusaal ahaan hooyo Soomaaliyeed baa tahay 7 ciyaal oo agoonaad haysataa labana isku aabiyiin shan isku aabiyiin xanuunkaas kugu dhacay wadankii baad joogtaa maanta qurbahan dadka xanuunka qabiya dadka kale lama kala garto waa isguursadaan waa isdhex socdaan waad ogtihiin akii xanuun qabiya kii xanuun qabo waa isguursanayaan waa nagu dhex nooliyeen laakiin hooyadan Soomaaliyeed waxay ku dhex nooshahay waad aragtaa hadda burca way ka carartay sida ay sheegtay tuulo beer la dhaho oo yiro ka ay carartay waxsiisa ma jirto aaba biila ma jiro ho immigrants inaadeer dhinac istaagan ma jirto todobada aqal bay ku xiran yihiin waxay ay gaadheen say iga sheekaysay neefaf xoolaha ay dhaqatay mila ar yar yar ina markay baxaan ciyaal suuqa iyo jirida inay ku soo qorto xanuunka yada ay qabto ina xoolihii dusha sare lagaga soo qoro marka muhiimadu waxay tahay hooyooyinka Soomaaliyeed oo telefoonka meesha waan ku soo qoray waa inaad indhihiina aragtaa qaar baa soo qoray telefoonkeeda meeshu ku qoran yahay waad aragtaan hadda waca $10 $5 $100 $500 kunka intaba uga dari maayo way aradan tahay waxay mariya siisatay la adhayadii ubadkeedii meel hadeen waxba ka soo galay ciyalna ku qodnayn cidna ku maqnayn ehelna aadan haysan ninku carra ku shaqeeya aadan haysanin walaalahayow see dareemi kartaan waa hooyo Soomaaliyeed maanta hortiina ku ooyeysa ma garanaysa dhibaataysan maanta ilaahay inagu inagu eegaya maanta inaga waan xuwan haysanaa alxamdulillah laakiin yada maanta xuma haysato ilaahay inagu inagu eegaya marka hooyada Soomaaliyeed ee leaderkii supermarketada iyo adduunkan joogno waad ogtiin 50 iyo 100 waan kaga soo tagnaa hooyada ooyeyso dhibaataysan han caawino aan wax iskugu dardarno ku saabay ma hadli kartaa wax kale insha Allah family iyo dad kale ku caawiyo iyo dawlad iyo wax ma la xidhiidha ما يعدنا الله ما يحدين الماء ساس وجوج أنا هاي وأنا شوجا وأنا مركان كدقاقة وحن كروي اللي يجشيدا ولا يجحايا سكول ولا جسوريا ده سكول دي وكوا بصاري تولا من هذا شوجنا وحن كوري وحلا وحن هاي سنة هبيرتي ما شفتو وحن هاي سنة وما أنت ناحر هاي سنة ما شفتو إسلام كإله تعالى الله وحسية وحلا ورانا يا الباب ده قبل جسينا وحلا ده يا واتي بكتي أما حنون كاسي قبتي وحتى كي أنا جرينا إن حنون كي جوجين أنا جيب أكتشل سامباني سربة تاجر هاي صرنا يوم كوجيا هذا هاي إسكام أنكو قصة قرص شعور تاعد بوكعسن تاي walaalaha Soomaaliyeed way ku maqlayaan oo hinta way arkaan cabashadaadi waad u soo gudbisay wax yar chance aan siino hooyooyinka kale teleefankayga haya hadayna kala qayb qaadanayaan insha Allah duco Soomaaliyeed waxay niga baahantay hooyadan hiiliyo niga baahantay gacantiina way u baahantay inay gaadho hooyadaas miskiinta ah maanta waxay siisatay ilmaheedii Mariya u siiso iyadina Mariya siisato ma haysato hooyooyinka Soomaaliyeed aad bay u dhiban yihiin waad aragtaan xanuunkan wax qaadsiiyay oo u qariyay waxa weeye waa nin Soomaaliyeed oo wadanka Ingiriiska intuu ka tagay ma garanaysaa xanuunkii ku talaalay sagin xanuunkii u dhintay marka hooyo waa mahadsantahay aan kugu soo yiri celiyo waa ku yiri celin doona walaa aad bay ooyeysaa hooyadan aad bay u dhiban tahay qof kasta oo ka qayb qaadanaya hadda WhatsApp ka dad baa soo wacay raali noqda hadda waad soo wici kartaan hadda iyadu way ka baxday khadkii raali noqda walaalahayga Soomaaliyeed oo hayga xumaanina insha Allah hooyadan Soomaaliyeed waad aragtaan hooyadan Soomaaliyeed maanta dhibka haysta waad aragtaan waxa tusaal ahaan waxaad qaadataa naftaada ka soo qaad wax yar fikir wiilka Soomaaliyeed oo in yar fikir inanta Soomaaliyeed ay wax yar fikir maamada Soomaaliyeed ay wax yar fikir waxa ku fikirtaa wax yar sikima yar waxaad ku fikirtaa adiga iska soo qaad adiga oo caruur hore agoona haysta Soomaaliya cid isku naxaysa ma jirto adeer baan ka naxayn abti baan ka naxayn ehel baan ka naxayn tol baan ka naxayn qofka u horeeyay kolka ka qabanayna insha Allah السلام عليكم ولا عليكم صدو عليكم السلام على حق إنكم فاسوق كلام أرك كوسع ولا إن أنت واحد يجي جالس سهرت تلقى والله حطي دونا تلفون كذا ماشي كوسقري صح ده كان حط ها والله هذا إن شاء الله وإن أي كتك إيش أي شوكتو مركي لها أمتي ده وحكسيو مش أي
burcay ka cararta abaayo adaa ku haysta burcay ka cararta markii burca waxay tiri nafti ilaahay la igu keenay bay tiri oo waxay tiri ile burca xitaa dawada laga qaataa ma ogtahay dawadu waa bilaash dhakhtarka weyn baa laga qaataa burcay ka carartay gabadhii waxay tiri firdhadaan beer bay tiri beer qofkii reer Soomaaliland uu garanaya beer waa tuulo burca xoogaa u jirta Euro ka sii shisheeysa weeyaan waa tuulo yara cidlaayo qurux badan oo dee roobkii adduunka duxiyo barigida ayaan loo qaxan garanaya marka waxa weeye beer bay aado tuulo ah waxay la gabatay tuulada la aaday bal ilmahan iyo dadkan iyo bulshadan iyo waxaan ku baratay wajiga ka qari cid u sheegtay moojiya waxay ku leedahay iska daa anigii ubadkiina iskuuladii waa laga soo eriyay kii biyaha noo shubiyo ilaahay dartii noogu shawaya nagu takooraya adhigii yaray aan magaalada ku dhaqdayna markay baxaan bay tir qalin baa lagu soo qoraya reerkii xanuunka qabay camal waxay qabeen baa lagu soo qoraya waa runtii meesha ku jirtay ku gubay waxaa ka dhacday arrintan oo nantii beddigii hore loo kacay ay saas ku dhacday ilkaha xitaa laga soo daadiyay iyagoo ciyaalku eryelayaan waa runteeda imika anaa wiiga dambe baxaya teleefonkeeda waa qoraya Hargeysa u socdaan moogtahay صح hadday doonayso guri baan u kararinaa waa la caawilaya laakiin waa inaan dadka u sheegin dhakhtarkii dawada ka qaadanaysa inuu sheego maaha waa iyadoo shareeran bay tagi kartaa dawadeeda ha soo qaatay gabadha waxa marka adigu insha Allah waxaad u socotaa wadankii baad u socotaa anigu Hargeysa u socdaa muddan ku maqnaalayaa maamada waa la hadlayaa wixii aan u qaban karo xaggayga iyo cidii kale ee doonaysa guriga waa $200 walaal ama $100 ba guryaha qaar lagu hela waad maqlaysaan hablaha qolka ku jira walaalaha islaamka ah waa awoodna hooyada inaan beer ka soo rarno Hargeysa dajino ila burca hore looga bartay Hargeysa badajino guri ma garanaysaa 200 misbalaar baa ku filan waxa weeye 2 qol 5 ciyaal ha ku xareyso saddexna ha kula xirto amba 3 qol baa ku filan oo $150 hooyada $300 bishii hadii loo qoro ana fay noqonaysaa niyad xumana ma garanaysaa ay la kulmimayso war dhageysta war gabadha dhageysta abaayis ku soco wixii beena ana idin soo sheegay caruurta hadday agoon tahay wax kastay tahay anigu $100 oo kiradeeda ana bixiraya bishii kasta inanta waan soo arki doonaa waan soo baran doonaa ana idin tagayo meeshii maxay ahayday Hargeysana dhakhtarkeeda iyadoo waa run dawada hadday cunto qaadato xanuunkan uu la noolaalaya way sheegtay ma dawada lacag laygama qaato bay tiri laakiin wixii kale cunto hadday noqoto marihii adradkii waxyaabo badan ma garanaysa burca cagadhabad bay uga baxday waa dareemaysaa maanta qof tuur leh haduu bartaba tuurow ka waalan waa la shiidaya wadankeena waad fahmi kartaa walaalo cudurka waxayba u haystaaba dadkan meesha jooga anu waan soo arkay adayada halkan dhigi qof hablaha AIDS-ka qaba hadday ka taabtaan hablaha AIDS-ka qaba halkay taagtaagan inaad ku aragtay shaqaalihii bay u haystaan waa awaan dadkeen waa run inantaas hadday arrintaasi ku dhacday arrin hore waxaa jirta I don't know inaad xusuusatid iyo kale mooyaane gabadh yar oo burca joogtay oo coldoon u kacay waan garanaya ilkaha laga daadiyay xitaa iyadoo ka ordaysay dhagax ku kuftay sax waan garanaya oo ilkuhu ka soo daateen anaa tegaya anaa soo baralaya kiradeeda boqolkayga bil kasta anaa bixilaya diyaar masha Allah lacagta gurigaas waa $250 biye way shaqaysan kartaa wixii la siiyo waxba caruurteeda ugu qabsan kartaa cid dambana sheegin shareeraha iska noqoto dariiq waa run waa la eriyelaya anu taasan ku صح weeyaan ما شاء الله aad baad u mahadsan tahay telefonkeedu wuxuu ku qoran yahay halka anigana WhatsApp-kan kuugu soo diraya hooyooyinka Soomaaliyeed oo doonaya inay hooyadana la caawiyaan qol WhatsApp aan u samayn karaynaa hooyada waan keensan karaynaa inantaasana baxaysa inoogu tagaysa video inooga soo duubaysa la tagaysa meeshii joogto wax kasta oo warkana inooga keenaysa saxda ah hooyada dhibaataysan aan garab istaagno ha may anu arrinta waxa ii soo gudbisay gabadh mareen joogta Ingiriiska oo wadaadad ah oo aan baraha bulshada iska baranay hadda waxay ku tiri hooyo gabadh noocaas ah jirta aad u dhibaataysan jaar aan haan jirnay imikana burca ka carartay ma caawin kartaa haabaan ku yiri xalay bay ahayd ballanteena u soo galo xalayna hawlo kale iska qabsaday caawa haddana u soo galay marka saas ayadana ku soo qabtay waana soo celin doonaa hooyada insha Allah markale adeerkeed jidka siraad baa lagu dhaafaa hadii wax loo qabto dadka agoonta ah ee dhibaataysan inta hadii cudurka qabto waa la eriyalayaa ma iyadoo habeen hurda guriga lagu gubaya taasa ku huba aad weyn asoo baxdo Hargeysa ha timaado wixii aan u qaban bisha dambe baxaya insha Allah wixii aan u qaban karo waan u qabanaya guriga ana u kireylaya saasan sameeynaa thank you walaashay hayo mahadsantahay
waayahay insha allah waad mahadsantihiin telefoonada waa soo wada wici jirteen marka dadka la garbaashayo qabiilada Soomaaliyeed lacaayo islaamaha lagu dhigsan yahay baa soo wada dhigi jirteen aawayde hal qof intaas hadlaysay hal qof soo wactamay bal ha ku celino qofkaasina haduu doono sheeko kala wata meelihiisa kala ordayba ma ogeyn baleefkan aaway haye sadaqada hala baqaylina hooyadan soo garab istaaga ma maqasha halo walaal iska gaabi meesha diga daawanaysa wariga damiyay xamdaa waan ku salaamay adiga asxaabta kale dhamaantiin sidee ma sha Allah alxamdulillah baay waan iska fiicanahay alxamdulillah hooyooyinka ilaahay wax siiyay qurbaha ku nool ubadkooda la nool farxadda haystaad ka mid tahay hooyada dhibaataysan maanta wadankii joogta waliba burca ka carartay tuulo carartay sidee baan wax ugu qaban karaynaa sidee u soo dejin karaynaa Hargeysa sidee maanta loo maalgelin karayaa u shaqaysan kartaa waad aragtaan dhibka haysta inantii hore ray fiican bay soo jeedisay iyadaana tagaysa dilka bacdi inta bisha la gaarina bal waxay sii cunaan iyo waxay sii xidhaan in ilaahay umada Soomaaliyeed ka siiyo telefoonkeeda meesha waan ku soo qoray ku soco markaa alxamdulillah horta waad ku mahadsantahay sida wanaagsaneed walaaleen maamada u soo dhigtay sheekadeeda waxa weeyaan waa inaga arkayna xoolo dirqibig waxeen bil qasab lacag lagu keenay leeyahay gabadhana istaahisha xamdina waxay idin tiri muxuu haydeen aan waxba kama rabo sidii hana baraata wax ma marsanayo meel qofkii toos u caawinayo caawi walaalayaal oo shaqada doona xitaa WhatsApp-ka wixii qurbaha joogo caawinaya WhatsApp-ka ayaan u sameeynaa group WhatsApp sidii inantii hore oo hana abukar ay dhacday $3,000 ka dhacdo reer Jarmal WhatsApp baan u sameeyay dulmudiid la dhaho halkaas lacagtii magaranaysa qof walba isku qoray Cabdixakiin iyo America lacagtii lagu shubaa qofka markuu warqad diro lacagtii wuxuu soo dhigaa rasiidkii isaga oo dhigo cadaan ah ma fahantii marka waxa way hooyadana saas oo kale waxaan u sameynaynaa maxaa la dhahaayay WhatsApp kaasan u sameynaynaa WhatsApp ka marka u sameyno waad arki doontaan halkaasaan iska wareysan doonaa kuwa Soomaaliya jooga xitaa way u baahan tahay caawa telefoonkeeda bartaas ku qoray $3 $4 hada haysta xitaa ugu tuuriye waxba iyadana u tahay adigana maanta iyo malaakhira wax way ku noqonaysaa ma sha Allah talabaad waxa weeyaan xanuunkan ay maamadu qabto ma aha cudur dadka kaga soo boodaayo Soomaaliya waxa uu sheegayaa alle in aanu xanuunkan xanuun sida oo easy la iskaga qaadaya aanu ahayna inay istijiyaan shaydaanka iska naaraan tiibida ka fudud iyo hargabka soo xad garateen maaha marka waxa weeyaan astur waa ilaahay sida aad sheegteen dhakhtarkeeda tagto kiniinkeeda liqdo laakiin dawa bilaa cunto walaalo qofku ma qaadan karo waa dhimasho ana idin sheeg xabad vitamin aan qaadan karin haddii ay gaajo ka hayso hadee ma garanaysa xanuunsan tahay dawadanina waa nafteed u baahan tahay hooyada hal caawiyaan leeyahay waan ku mahadsan tahay waxaan leeyahay dadkan xoolaha ku raadinaya ma garanaysa boobka iyo aflagaada oo diinta islaamka uga baxaya dadka naagaha dherigsan qurbaha jooga ubadkooda lacagta ay ku qaataan iyagii shaqaysan karaya wadan maanta joogaan nabad oo ay ka shaqaysan karayaan aad ogtihiin naagaha lacagta diinta islaamka ku raadinaya uga baxaya rasuulkeena Calays salaatu wasalaam ku aflagaadeynaya ummada Soomaaliyeed wajigooda isku soo hor qaawinaya marba wax diinteena iyo islaamnimadeena iyo ma garanaysaa ee Soomaalinimadeena wax u dhimaya ay sameynayaan inta lacagta kib ugu shubaysaan oo u siinaysaan hooyadan baa dhibaataysan hooyadan todobada aagoonta haysata baydi noqonaysaa waxa weeyaan niyada uga duceeya ma garateen caruurteedana yada haysanayso halkaas ku asturnaanaysa waa sida aad sheegteen sidaas waxa yar uga soo haray caafimaadkeeda ku wada wasan ganacsiga bay guuriga kaga dhex furan karaysa kole dhar iibiso kole waxay qaban karaysa qabato ma garateen kole guriga kiraysato hortiisa ay dukaan yar ka furato waxa fadaha ila waa qof cusub Hargeysa timid cidna war uma haysto sawirkeedana ma soo bandhigayna ilaa talabaad ilaahay laga boqo dadka xanuunsan yaana takoorin walaalayaal oo waxa weeyaan ilaahay baa u keenay manaysinaysan meelna may marin xalaal kursato waxa weey ibrahim nagaleena ku tusayay ilaahay ha laga boqo oo dadka islaamka maxay isku diray xumaanta jeceliin wanaagana kama taliyaan ilaahay ka boqo daayo qofka ilaahay xanuun u keenay isaga u keenay caawina mooyaane waxaan maxaa loogu caawiyaa cudurka ilaahay waan ku saf garaynaya lambarkaaga adigana qolka WhatsApp-kan u sameynayna hooyooyinka Soomaaliyeed ha xishoonina $10 hadaa xitaa qurbaha joogtid $20 hadaan isku tagno waxa li quraanjo isku tagtay baa li muluc wajiide ma fahmaysaa wixii ka go'an pandemic baa lagu jira dad badan baa bilaa shaqooyin laakiin waa la helaya sida aad sheegtay $1 hadii loo geeyo waxba uu noqonayaa intaas aan ku filan ka badan alxamdulillah 20 dumara walaalay 20 dumaro mid $50 way awoodna waa lacag ciida ka badan baa keenaya waa sadaqa waa bilaa xijaab waxa weeye muxuu saaqad baa laga helay inuu furfuraya hala bixiyo sadaqada meeshii ku waajibta ha laga bixiyo gabdho bixiya
ilaahay baa balay xijaab inooga dhigayo ubadkeena inaan wax u dhigano weeyaan aad weyn ma sha Allah ay nagu socda ilaahay aad weyn aniga gabadhan saddex baan soo bandhigay kaalkacyo ah bay ku jirtay gabadh indhoolay ahayd si aamina la dhahayo waa sii garanayaa gabadha markan ummadda Soomaaliyeed soo bandhigay 5 ciyaal ay haysatay ninku ku furay naakala ka raacay Soomaaliyeed baan soo bandhigay waxaan ku yiri markiiba waxay ahayd adu xilli hore masabtaasay ahayd dhug baa lagu yiri lord baa loo dhisay hooyadii waan soo bandhigay way igu soo noqdeen marka telefoon video-ga kaliya soo dhigay anna waan ka shacab diyay gabadha telefoon ayadu leedahay ma jira maya ninka kaamka telefoonkiisa loo maraya maya $100 bay gabadh xamdiye u sheeg telefoon ha loo soo siiyo $100 sidii baan samaynay soo qaaday magaceeda seedkeeda waliba akoon baa loo soo furay ila soo xidhiidh abariga snapchat ka shidna meel kasta ku daadisay yes Soomaaliyeed oo roonta marka sidii baa gabadha lagu caawiyay kaan bay ku jirtay wallahi bay haysanin musbaloor baa loo dhisa akoon baa lacag $7,000 lacag ka badan loogu shuba iyadu iska leedahay u soo hadhay markii aqalkii loo dhisay barkad baa ma garanaysaa foostad way hal weyn barkad amalo kaamka dhan ay ka waraabiso ay ka iibsato lacagta loo dhisa maxaa la gaari nooha loo iibiyay marka ilaa abti now gabadhii marmar bay soo xiriirsay tiraha walaale wali wayn dhalaada ilaahay dhigi muusin ninkina markuu arkay ka tagay ha ninkii markuu arkay ka tagay gabadhii daaro loo dhisay adduuna baabuur loo iibiyo ku soo noqday ayuu ku soo laabtay ha markaas ila soo hadashay tir ninkii way ku soo laabtay saniri darawal ma yaha fud gaadhiga saar gaadhigu ha shaqeeyo ku noqon ninkaaga ha marka sidaas walaal ay jirtaa hooyadii labaadna waxay ahayd anigoo burca jooga sanadkiina dhaafay markan tagay gabadhii waxay ahayd Allah u naxariistee rooble warsame fanaanadii amba maxaa la dhahay jilaagii burco sooraan iyo jawaan rawaadaha la matali jirtay ha ayadana waa la caawiyay maya hadda way dhimatay abaayo waa la caawiyay intii la caawin karayay ha markan maanta jimcaan ka soo duway biriyo khaas sabtiyaana waa ka soo ambabaxay wadankii 15 cishay adigu dib u sii noolayd waa dhimatay laakiin si fiican baa loo caawiyay wixii lagu aasay awl horna wax koob caana loo siiyay weyna koob caana anoo jidka maraya gabadhiga hortii farxad ku dhimatay anoo jidka maraya Allaheedi jeclaa u tagay subxaana casa wajililka ku darsada asxaabta waxa idin la hadlaysa waa milka qurxinta dumarka halkan wuxuu ahayd in idinka daawanaya kowda in badan baa rabay xiisotaano irkaad martaano maguma soo wici karo waa saasama dadka badan dadka sadaqada marka lagu reeyay way kala yaacayaan wadaad maanta haduu barta fadhiyo daawan mayso ma fahanti Allah caawa qabiil ma jafo ama cid ma jafo dhig telefoonkaas u qarxila ha marka waxa weeye dadka Soomaaliyeed waa dad saas xumaanta iska jecelna runta xanta iska la doonaya waa waxa aan cadaabta xaalada la inooga sidaas waaye bal dawaan ku salaamaya insha Allah walaala ii soo qor salaamu calaykum xamdi guluubkii ugu dar inta kaliya ii soo qor هاي وكان باي waxaan doonayaa inaan u sheego waxaan doonayaa inaan u sheego xadaarada iyo horumarkan beenta loogu sheegayo leeyahay horumar ayaan idin wadnaa ka baxa diintiina islaamka sidaa doontaan u gala inay been tahay annaga dadka la nool annaga arag ahoodii bay toban bay iska soo wada xaaqeen makaanka wada daloola dadka la idin leeyahay annaga la nool aragnay aalidkood bay ku tuugan guryaha dadka waaweyn oo dirxi ku wada galo ku wada dhintay waxaan garateen maaha yaa dhaqankiina iyo diintiina la idinka saarin guryihiis aan waa hadal cad soo baabday kana idin leeyahay waa milka qurxinta dumarka waad wanaagsan tihiin saasaan idinku jecelahay xamday mahadsanid xabibtiisa taanki ii soo qor milka ii soo qor baan ku yiri magacaaga iyo guluubka igu darsan dadka kaaga barto waayo aad bay dadku badan yihiin soo wacayaade nabad milka qurxinta dumarka weeyaan waanan kugu soo darsanayaa bishaga waa la socdo waa ku xiranay waarid wal salaam screen shot baan ka qaatay nabaday
hadday tagto waan soo ka daba tegaya waa soo qabanaya screenshot ba ka qaatay waayo nicmo baraanka ayaan ku soo qabanaysaa nicmo baraanki baan anigu dhaha waxa ii qorana nicmo brinki soo dhaw nicmo walaalo leefan ku jira ma la socotaa walaal waad mahadsantahay ما شاء الله waan ku jira walaalo waan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام walaal ku soco ما شاء الله xamdi walaalo aad baan ugu farxay programkan subxaanallah soomaalidu waa wareeg fudaayo maaragtay waxay doonayaan dee karbaashkiyo markaas anigana laakiin sidan hadday noo khayr badanoo waa adiga khayr ka shaqeynka markaa nagu dar walaal groupka walaalayaal xanuunkaas horkale anigu live kalaan ku jiray livekii wadaadadan haddeer kasoo baxay marka that's why baan kasoo habsaamay livekan ها inantu waan soo qabanaynaa mar kale insha Allah hadda marka adiga inan kala yidnay waxaan ku xilinayaa waan ku xilin doonaa hadayna siixan kulli Soomaaliya xilli dambe u tahay anigii hadda 9 ii tahay iyaguna 12 u tahay marka insha Allah baayo waxa weeye hooyooyinka Soomaaliyeed maanta tan oo kale u baahan naa qurba joogto 8 ciyaal haysata ama shaqaysan karta inaan inta lacag la siinayo loo hurayo hooyooyinkan masaakiinta ah xaq u leh inaan wax siino aan garab istaagno oo xanuunkiyo waliba agoon haysta 7 ciyaal agoon maanta oo cid Ilaahay abuurto Ilaahay mooyana bini aadan kale wax ma garanaysaa oo na siinin qof kasta dadka soo qoraya xamdi guluubka nagu dar please waxay naga codsanayaa qof kasta oo doonaya inaan guluubka ku daro WhatsApp ba guluubka weeyaan maaha messenger waa ina WhatsApp-kayga soo gashaan haddaadan lambarkayga haynin page-kan aan ka hadlayo messenger-kiisa ku soo qora lambarkiina waa mahadsantiin ما شاء الله walaalo ma arakaasiyo walaalo waan sameeynaya haduu Ilaahay wadada ka dhigo waan soo galay aniguna groupka waan ku jiraa gabadhana walaalo waxaad sameeyay kule dadka halka iga dhageysanaya jooga yaan la isku xanuunada xanuunkaas Ilaahay baa keena Ilaahay baana marka gabadhaas yaan la takoorin anaga inaadeer $20 noqoto marka don't worry intaas insha Allah walaalo dadka xalena Ilaahay ka baqa waa takoorina dadka oo ha ku takoorina soo iibsana qof walibana nin baa qaadsiye walaalo iyada waxay soo iibsatay ma hay waliba nin baa qaadsiye u qariyay Ingiriiska ka tagay guursaday iyadoo 5 ciyaal iska korsanaysa marka waxa weeye waa soo qaban doonaa hooyada insha Allah mar labaad waa soo qaban doontaa iyadana walaal waan ku mahadcelinayaa xamdi wallahi ما ينقى برنامج ناس وضعنا هوين كصومالية وانترنوق الله قلا لعقد لجو قرابين شري أو يجوا كومة مش يلا مرة كو قرن شرين حلقاس نقولنا حلقاس هو يدا دبعتي سبا يوتيوب كأو قرنا لمبر كذا فيسبوك أو قرنا توس أدول حدود رئيسا حمدي أي ولي بوحن ربع على عدسنا ووتا صومالنا ومقليستا كوزع نفط هذا يا نفط هذا يا نفط وحن كعدسنا يا ولا علي ولا ما لقوا إيدينا إني ولا الوحاول تلفونك حق ما ينقص إليهن بلو أيضا لكن دماد الحين ده دماد ماله يس وان فهمي كرامة هذا وضع أمان وعوضي ما إلو نقضى بروجرام دماد محل بلو لو دماد وأنا هو ده صدقة ما لديه كرو محل هذا صدقة ولا قرية تربطين كو ما أتكويه لتو لكن ما أنت وحقوق لو كقصبي هاي إن أنا وحي أنا عاونني أنا وجان أو الجودة ما أنت لعبت وطبط يو سدا إن أنت هذا كوها استاء إن أنت إما كوكا بينك إنه يقول شيء لمبر كيجا وحي ربع إنه متصابك يجلا قيب قبته هو حنوك اللي قلت كوريت ده بدي عيال أقونتك عنك كويسة واتساب كي جواك هلا يقص هذا صدا حنا لا يقلق بقاطف عليه وراه $8 هداد واحد كلا ويدد حوالي $8 اللي تجي مشيت وقتله ساحة لا رئيسه شيء أي هو الدليل هذا الشيء الماذا هو الدليل هذا برعك عقدة بدو قعرته يا عابي فذا حد يشيد مرك حركة لك قصاري هو عاون هو يدا إن شاء الله دمانتي بقى إن شاء الله دينا عاقة نعيمة دينا عاقة هو يدا ولي بعدين فرق هو يدا تلفن كذا كوسو قد بينا لا حديد حق ماليدو دن isoo garab istaagana baay diyaar walaalo Soomaalidu waa ay tusoo itaabsi inta
video noo soo duub waxba inoogu tagaysa burca aadays hargeysa tiri anaa u tagaya anaa soo waraysanaya xitaa iyadoon video laga duubin bay tahay anaa soo arkaya xanuunkii wixii waraaqiiba haysaa ma ogta wax kastoo cadayna anaa inii soo gudbinaya bay tiri aqal baan u kiraynaynaa bay tiri naqaabkeeda ha iska xidhato dadka yaa laga garan waayin meherad yar baan u furaynaa guriga kirada waa 250 iyo leerkiisa iyo biyihiisa boqolkayga diyaar baan la ahay bay tiri bil kaste ilmaha aagoonta iyo hooyadaasna ugu tabrasay weeyaan maasha marka waxa kaas ilaahay ajarka siiyo thank you walaal macaan eedaan baa yeeraya ayaa la leeyahay mareer Soomaaliya eedaan ku yeedhiya kala masareer Ingiriiska anaga wali nooma dhawo 10 iyo dhowr iyo 10 baa aniga laga eedaamaya halkan salaadka cishe marka aad u mahadsantihiin waayahay waxa ku celinaynaa insha Allah dadkii maxaa la dhahaa soo wacayay jarmal oo kale qofkan buu ahaa ilaa sidii ma hadda karbaashkii war dadku ay jecelaan hooyo Soomaaliyeed baan ka hadlaynaa kibirtay ilhaan maxay ilhaan meesha keenay wariya halo soo dhaw walaalo ma qasha ka hore yaradimi abaan amda igu dar anigana gruupka dilayta sidaas waay la baxaysid sadaqa ah groupka markaan kugu daro hooyada markaad lacagta u dirtid oo telefonkeeda qofka ka ay xawaalad lacagta kaaga dirto baad groupka soo weeyaan saas isku garab istaagno aad baa u mahadsantahay walaashay magacaagana ii soo qor lambarka san u save garayade ila igu dar ku qori maaye oo ku salaam igu dar ku qor dabeeqa jeer baan kula hadalnaa waa saas dadka badan wallahi maskaxda ay xanuunto dadka fara badan ma Soomaaliya oo dhan hal mar aad qancin karaya baa hayebel my life kama jecelina ka hadle gaar ahaan baan jeclaa inaan kula ka badan raali noqohay ka baxdo marka leefka ka baxdo way kuma wareerinayaan walaal kumaan kumba ku soo wacay hasaa wataga mid meel ka yimid iyo mid ooyasiyo mid ku caayasiyo marka ma qabto waligiiba hadda na baloogan saara qofkii caaya baloogan si hayeenaade nana waan ku jeclaan kuma caayeen adiga ku saara hay bal qofkan aan ku celino insha Allah inuu Ilaahay wuxuu ka soo qaaday hello ma maqashaa abdi assalamu alaykum walaalo alaykum salaam walaalo leefan ku jira ma la socotaa way safgaraysan adiga ma sha Allah ku soco horta inantan horta ilaahay caafimaad ha siiyo oo u gargaarana groupkana waan iga message ku soo qoray igu soo dar anaa berito ugu soo horeynaya inshallah waan ku soo shubi aniga ma aha qofka lagu shubayo lacagta lacagta ma aha group gabadha magaceega saddexan iyo telefonkeedan guluubka soo dhaxdhigayna hooyadana waan ku soo daraynaa qolka hadana telefonkeeda meeshu ku qoran yahay hooyada toos ula hadlaysaan WhatsApp bay leedahay wareysanaysaan u sheekaynaysaan ila jaar iyo xaafadii cid ay la hadasho toona male inaga jaar uga guluubkaas ku camirayna halkaasna hooyada u garanaysa jaar uga noqonayna waxaan kale hablaha Soomaalida qofku waa shay walba iska bursanay gabadha kaga intaanu bursanin aada waa sheergareeya gaarsiya walaalaha Soomaaliyeed hablahan dhoofka dubaahanowna ogaada hooyadana maanta waad aragtaan iyadoo 5 ciyaal iska korsanaysa balaayo Ilaahay muska afka uga soo geliyo inaga la nagu eegaya dadka Soomaaliya hadda ay ku sii deynayaan walaal haye alla ya cisig haye walaal dadka oo dhan qaar baan codkooda raali ka ahayn waxay soo qoreen xamdi gulubka nagu dar haye walaal haye thank you niimadu waxay tahay walaalaha Soomaaliyeed waa yahay magacaygu waa Hiblaayo Xamdiyey maamada xanuunsanaysa ayaan rabaa inaan marka koowaad xigo darsa walaalay gulubka igu dar شينا مويل بمسواك ولا مسواك بنا سويدن شينا وعدك كادتك مقشي السلام عليكم والله على صدقوا قولكان كوكو صدريا هاي هو يداسنا وتا ما شاء الله
وتعدي مالك استاد شوكتان هواين كصومالي ذو كواس قف مريكان شوكا عاد يسوي وعي والله بلا قف كان أسواق قفتان ورم هايو قلوبك يقدر بصعطهم بس تدكوا وضع قرال عاو كل كويري هاي قلوبك يقدر بصعطوا ما هتسنتين أوكي هوايدي من كعشاننا ما أنت أصابك بدن تومن كبدن هذا أنت سوق قرطين أنت الإصلاح هذا النيبة أنت أسوق كريا وكوفي لمبا ما فهمتين مركا هوايدي كعلنا هوايدي كعلنا هدينا السيحان دي ولا ليال رال نقدم باللبية تومن كده دون توي ساحتين رال إن شاء الله داولك يا بابا نيجي وزنرا شينا داهر هاي شيء عودك ومقلني تانكي ولا له السلام عليكم ابايا وحيل الدنبير رالي النقو دad badan baa kulay day facebookayga ma haysid intii aan ku fasaxay dad badan baa soo wacay imika wali leefkii baan ku jiraa umada Soomaaliyeed way ku daawanaysaa wali hooyooyin maanta Mareykan Ingiriiska Yurubta jooga ka arintaadi dhageystay oo aad uga wada marar dilaacay hooyadii ugu soo horeysay waxay tiri bishan soo socota aniga u socda Hargeysan aqal uga kireynayna haday raali ka tahay maxaa dhahay aqalka kiradiisa waa 250 biyaha iyo leydhka iyo wax $100 baan bixinayaa hablaha kale ay gala soo qayb qaataan reerka aan ka soo rarna meesha ay degan yihiin hooyadan qaab inta iska xidhato aan u furno meel meherad ah amba dukaan ah amba wax kale ah siday u shaqaysato Hargeysadeedana ha iska soo degto inda shareerkeeda ha iska qaato dawadeeda ha ku doorato de arintaas dad badanna waxay isku qoreen lacag hadda intaan ku maxaa la dhahaye group baan sameeynaa WhatsApp ah waa kugu soo daraya adigana teleefankaagana waan u dhaxdhigaynaa qabadhi ugu horeysay waxay tiri biriirkooda duhurnimo ayaan u shubaya lacag Ingiriiska joogta gabar turjumaan ah weeyaan muhiimadu markaa waxay tahay inaan guluubkaasaan ku goynaynaa guluubkaasaan iskala soconaynaa lacagtana toos ayay kugu soo dhici doontaa insha Allah marka maxaad leedahay walaalaha Soomaaliyeed maxaad sii faraysaa intaasan ku hay ilaa 10 qof hadda dabada way soo hadleen amba maxaa la dhahaa amba qora amba inta tiri guluubka igu soo dara maxaad ku sii gabagabeynaysaa keenay walaalaha Soomaaliyeed waxaan farayaa inaan anigu aad iyo aad u dayaxan waxba haysanin maxay ahayd aad iyo aad dadka ehelkaygii kuureen maxay ahayd laygu arkay xanuunka maxay ahayd dhibaatada laygu arkay maxay ahayd jileeca laygu arkay caruurta badan ee aanan waxba u haynin laygu arkay dabadeetana lay nacay walaalaha Soomaaliyeed inay damqadaan xidhiidhigan ku jira iga saaraan baan ka codsanayaa xidhiidhi aad iyo aad u adag baan ku jiraa waxba hadalka dee waxaan ku iraadaan ku dheeraan iyarasig Xuseen wiilka Xuseen la dhaho waxaan ku dhajinayaa biinka Soomaaliyeed waad ila aragtaan wiilka walaalkeena khayr Allah siiyo Xuseen Maxamed baa la dhahaa wuxuu yiri $300 xageebaan ku diraa buu yiri walaashay aan u diro Xuseen teleefankan imika live-kan aan ku jirno walaalo dushiisa sare qoraalka aan ku soo qoray waxa ku qoran Kiin Maxamed teleefankeedina uu ku qoran yahay hadii aadan teleefanka wala adigu arkaynin waxaan ka codsanayaa inta hadda i daawanaysa teleefanka xagga sare ku qoran ofraha Soomaaliya maxaa la 2526 laba tiri ka bilaabmayo inaad u soo dajisaan maxaa la dhahaa wiilka walaalkeen ah sidoo maxaa la dhahaayay u caawiyo hooyadan anigana afkan ka sheegaya kala kastu ordaya teleefanka lacagta ku diraysid sug habaryar sug teleefankaagana gacanta ku hayso insha Allah dad soo wacayaan idagayso walaalo waxa weeye marka lambarkiisa dhaxaga ka akhriyo WhatsApp keeda ka dhax akhrinaya inuu idagayso walaalo haday daacadka wada u caawinayso ma sha Allah u kala kacdaata walaalo 300 jisayla idankiisa wakaas adna ilaahay maanta maalinayd ad kaaga daran tahay buu ilaahay ku siinaya waxa weeye 0025263 waa fura waxa kugu celinaya mar kale aan kugu celinaya waa 0025263 waa furaha Somaliland ka bacdi waxaad ku sii daraysaa 3965 رالي نقطة في إنجليزي قد إيش كم في علمي الصومالي مكوش يعني أطيرت Somaliland عبد المارك مسعود دنور كسب بحيي لير لما بركع في Somali كوشة مركز أنا جيب أنجرم وين روقي جيب وجرم وايبه
nin gabadh maxaa la dhahaa reeqooyo dhulalka ka yimid carabta hashe marka muhiimaddu waxay celinaynaa hooyadu waa tan telefonkeeda xuseen oo qoro please waxaan codsanayaa intay daawanayso hadda inay lambarka barta kusoo qorto yes waa kusoo qortay sucaad ibraahim baa kusoo qortay wakaade ilaahay kuma qaado walaal sucaadi dhag biinkan ku dhajiya wakaas sucaad ibraahim baa kusoo qortay wataas telefonku waa kaas wakaas sucaad leega hala saaro lambarkaas weeyaan walaasheen xuseen waad mahadsantahay wata inantii labaad xaliimo sacdiya soo qortay yadana alla yaa cusub okay hooyada Soomaaliyeed baan ku celinaynaa markaas ugu shuba telefonkeeda toos bay ku galaysaa maaha waxaan ku qaraabanaya waxaan meelahan la gelgelayo xaraam caleeg inaan wax ku daro mooyaane inaan hooyo Soomaaliyeed hunguraynin ilaahay baaba kowga anigoo ladana waxaysto qurbaha jooga hadan hooyo Soomaaliyeed dhaco soo dhawow insha Allah telefonkii waa u saxnay wiilkii afkan uga yeerinay ku soco habar yar ku soco tolka waxa tir reerkaygii iyo reerkii ilmaha agoonta hore aad haystayba way ku togareen caruurtaada waaweyn shanta ciyaala ah sidee kula dhaqmaan si wanaagsan ma kula dhaqmaan xanuunka ma kugu og yihiin caruurtaada ma kugu og yihiin mise waad ka qarisay ku soco way wada og yihiin kulli way wada og yihiin laakiin dadku aan aqliga lahayn yar waxba ma garan umahanad garanaya way garanayaan umahanaday walaalo umahanaday umahanaday burco xita beer maxawaalad ma ilaada dadku beer ma fahansano magaalada burco ugu dira waxaan hubaa seedkeeda ayaa loogu shubaya hooyadan meel kasta Soomaaliland Hargeysa haddaad ka dirtid xawaalada way wacaysaa telefonkeeda ka wacaysaa halkaad joogtaa gobolkaasan joogaa bay dhahaysaa lacagta seed igu soo shuba seed baa loogu shubaya ma fahanteen marka waxa weeye burco ugu dira walaalayaal waa mahadsantahay umahanad walaalo qofku u qoran yahay thank you ku socoy waa 393 weeye lambarka uu ka bilaabmay waa ku qoran yahay dadkoo dhan ba xagan u qoran yahay waa anigan soo bandhignay hooyaha ka walwalin telefonkaaga marka qurbaha la joogo waxa lagu soo galayaa 00252633932605 ayaa lagu soo galayaa waa intaas waa kaas xaliima mar labaad ku soo celisay waad mahadsantiin marka hooyo maxaa ugu dambeyntii maxaad ka sii codsanaysaan ku fasaxna xilli dambe ku tahay ummadda Soomaaliyeed ilaahay waxa kaaga soo qaado maanta waxa kaliya waxbaan isku cunaa laakiin waa caawitaanka aan is caawinayno inta kaliya wax iskugu nahay waayo hooyo waa wada kacay hal mar ay meel wax dhab ku wada siiyaan Soomaalida taa dhaqankeena marka maxaad ka leedahay insha Allah ugu dambeyntii maxaad ka sii codsanaysaa hooyinka Soomaaliyeed ku dhageysanaya hooyinka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in dhibaatadan aan qabo ay iga caawiyaan ilaahayna ii baryaan inuu xanuunkan ilaahay iga qaado maxay ahayd dhibaatadan aan ku jiro si aanay ay iyaguna maxay ahayd gabdhahooda iyaguba ay maxay ahayd ragga ay guursanayaan ay iska baaraan si ay u badbaadaan oo aan dhibaatadan hayso oo kale ugu dhicin markuu guursanaya ma ku sheeg markuu hooy jaaniskan ka sii faa'iideysta markuu guursanayay aqoon ma u lahayd ma isku qabiil baad haydeen ma istaqaanteen ma internetka iska barateen ma burcad isku barateen bal wax in yar noo faahfaahin may walaal aqoonin alaf unba isu kaayagay Allah ku caafiyo ubadkana Allah kula koriyo hooyo dhibaataysan baad tahay inta ka badan waa ku fasaxayna insha Allah waxa weeye waxaan ku akhrinayna dadkana way maqlayaan dadka guluubka yiri sameeyna hadda waan kugu soo daraya halkaas codadka dadka aad ugu soo duubaysa annagana aan kugu soo duubayna qof kasta lacagta ku soo dirayna jawankiisa guluubku soo dhex dhigaya aad baan ku salaamay hooyo ilaahay khayr ku siiyo aad baan idinka idin salaam adigana ilaahay khayr adigana ilaahay ku siiyo amiin insha Allah habar aad baan ku salaamay assalaamu calaykum hooyadii wanaga fasaxnay insha Allah ilaahay idinkiisa hadda waxay joogtaa beer ninkii yaqaana waa magaalo burco iyo waliba Yurooba ka sii shishaysa aad baan idin salaamay insha Allah waa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 qofan haya hadda soo qoray walaalay anigana groupka nagu dar iyo qofka Soomaaliya jooga kulay 12 kaas hadda soo galay insha Allah waa u sameeynaa qolka waan ku soo dari doonaa intii Facebook ku soo qortay walaalay qolka nagu soo darna Facebookayga tooska ana inagala soo xiriiraya inagama daba haraya waxaan rabaa inaan hooyada caawino waan soo ma garanaysaa please umahanad waxay tahay hana umahanad
تليفون كده ميا باي تليفون كسوق بينك كودكسن ما دركين ميا هياي ساد بعض وشو بس ساد سيرفي مال هاي تليفون كده واكن بينك كل جهة كل شيء سوق وكا تليفون كهويدو وانا بينك كل شيء وكاس أفكارنا كيري يوكودافين تليفون كا متى كلا واحد شره انت هويدا فصيحين bay ahayd inaan la hadlo maadaama baraha mar hore wiishkayga aan soo dhigay lambar looga faa'iideystay waxa jirta gabadh imika xalay oo kale waxaan daawaday sug qisa yar xanuun kulul ban xalay daawaday halkan Facebook-aygan ku soo share gareeyaan u maleynaya raali noqdo walaalayaal wax yar waa run qisadaas xalay toole waan daawaday waan run baan u qoray waa qiso dhacday aniga mar ma garanaysaa dadan caawinaya ku dhacday qisadan bayna ahayd sug aan tusay raali noqdo insha Allah sheerinteeda iska badan sheerinteeda watan qisadan daawada walaalaha Soomaaliyeed Facebook-na waxaad ku nacaysanayo maanta uu warwareegaya qisadan hooyada Soomaaliyeed inay ka dhacdo waxa si toos ah ula soo xiriiray Faadumo Nuur Cumar oo la tacaalaysa xaalad waxuma mobile yar ku soo duubeen video ku soo baxaya عاليسة حالة عافماد ويلكيدا oo jacayl iskaga soo tuuray buundada waxba la arkama raal noqdo laba qof oo isku bahaystay dhacaya ugu horeen waxa lambarka maamada soo wacay haweeney oo codku kaliya xitaa dhageysta qasadan oo iniga yar sheekeynaya wax yar waa kaga sii faa'iideysanaya inay caawinayso wiilka bukaanka iyadoo sheegaysa in baabuur uu ku shaqeysto haddii uu caafimaado ay u soo dhiibtay iyadoo ku xirtay qof warqasadan waa daawateen baan filayaa naagta iyo ninka Soomaaliya jooga dadka ku shaqeysta sidan qisadan iyo qisadu waa walaalo baabuurka waa soo wada lacago isaxiiga oo isku maalin uu dalbaday ay u direen ilaa uu ka dhaho si ka dheer ayaan joogaa xamar ma soo gali karo ilaa taarko aan u jaro gaariga soo dira lacag waxay isku noqotay lacagta guud ahaan ay direen $500 balse intaas oo dhan maalintii dhacayeen waxay joogeen qoyska Sanco waxay ku sii jeedeen isbitaalka oo wiilkooda ayaa qalin galayay naaga isoo wacday anoo joogo Sanco wasbaaro hada wiilka telefoonka waa khalada saakiil isoo naqi naabal suga mid baa isoo qortay xamtu telefoonka waa khalad ma dhici karto telefoonka WhatsApp buu leeyahay waa telefoonkan hooyada kala hadlayay hayaay ma qof intu khalad igu soo qoray ayaan anigana iska soo dhigta suga telefoonka ana si fiican inagu saxay walaalayaal haddii xitaa khalad markii hore ahaa iga raali noqdo insha Allah ana qoriya gacanteedan ku qoriya suga 0025263393 xogaa inta maan qabtay maskaxdeeda fududaysa maskaxdeeda fiican tahay waayahay 932 baa ku xiga 2 waxa ku xiga 6 waxa ku xiga 6 Allahumma salli ala Muhammad 05 dawa ku kaas waxa danaan karaya beerati ma jirto taxkusi waka lambarkana soo qoray waka hadda filim baabad keenteen alxamdulillah lambarku waa khaldan yahay waka hooyada WhatsApp bay leedahay hooyooyinka horan caawin jirnay koral caadi lahaayeen laakiin tan WhatsApp bay leedahay baaytan iyo inantii horeba muhiimadu waxay tahay qisadii hadda Facebook inooga daarin qoraalkiina markaan arkan ka boodayay qisadaas ayaan rabaa wax yar inaan iniga taabto waxayna u roontay qisadan inaan ma garanaysay wax ka tuso hooyadan dhibaataysan hadda aan rabno inaan caawino ayada saakiil isoo naqi xal wiilkii qaliin oo baan yahay ee quraan soo saar anigoo soo laabtay Sanco isbaar Sanco taagan naaga isoo naagtii soo waxay tiri Faadumo Nuur Cumar adimiyaha waxay tiri Cabdi Maxamed Baawur Cusaab alu soo dhiibiyay baawur hoomay baa u soo dhiibay anko intaana qofood nahay dadarsanay hoomay Cusaab wiilkeeda inaan u shaqeysto markiis caafimaad helo uniyeysanay anigii runa oo maleeyahay 500 oo wiilku daaweys dhahay oo meel Itaali oo muslim isoo dhiibi ilaa isoo qaado leeliyaasheed isoo qaaday ay naaga idacnaaga inay dhacaan horta ko bariima nin kort wax asalay mala laagta laad fitna wadi naagtan waxay joogtaa halkaasan ku joojisanayn okay ana rabo inaan qisadan kala markaa qisadan hooyadan waa hooyadii inankeeda hooyadii familkii jareerweyna ahaa inankii raay iska soo tuuray buundada jacayl dartii isku soo tuuray hooyo markay baraha bulshada soo dhigtay Soomaali fara badan waa caawiyeen ma sha Allah lacagtii hooyada loo dirdiray iyadoo qalliin ay ku jirto oo cisbitaalka qalliin ku jirto ayaa waxa soo wacday
naagta marka waxay ku tiri lacag baan inankan gaarsiinaya inoogu shaqeeyo markuu ladnaado oo sadaqa ah baan la baxay soo dir 500 bay dirtay afka ka barsatay telefoonada ka xidhata marka way jirtaa tuugada saasa aniga marka aan tagay Somaliland aan tagay maxaa la dhahaayay sorry dad baa soo qoray xamdi lacagta ya wareeraha yaqaan lacagta hore soo aan dareemay jira qof baa hadda badrayba saan eegi isuga walaalayaal isuga waa ku fahmi laaya qofka kale jalba jooga qoraalkaaga si fiican ma fahmin iga raali noqon muhiimaddu waxay tahay markii Sahra Roob la xanuunsatay burcantay leefan soo galiya waa kan qofta hooyada saasaa dhacday waliba xanuunsanaysa markaa sakaraad ahayd bay ahayd ma fahanteen waa tan suga waxay raali noqdo walaalayaal waa qisooyinka waa dadka maartay tuugta ah waxna waa tuug toos kula imanaya sida dehana abukar oo kala dadka ku dhacaya ha hablaayf macaan ku sii naadeertay rididi dhahaya waxna wax siyaasad kala ku qadhabta hooyadan baan burcan tagay hooyadan man ka soo duubay TV-ga ka soo duubay markaan tagay waad ogtihiin ninkii ku xidhnaa beeshkayga xilligaas markaan burcan tagay bay ahayd oo sanadkan imika dhamaaday insha Allah waxay suuga sanad ka hor bay ahayd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود نوادا الله نحرسته قبل أسود بطي قبل أسود سعوية مركب برعت لي أنا جوكا أنا جي اسكمل مدوني حاجة صفر استه أو بالبلار كها هذا معكم حاجة ده عند الغرب كمقرن صوب ده عند الصومالي عند بلاش الصومالي دكتور وسهرة طوبلة هذا سهرة طوبلة وصل ننتهى صلاة أنا لا مرنا يلا تسمى يا دكتور مرنا عندك إن شاء الله ثم لا يلا تقبل أوكي مرة صوّع طبيعي هو يلا سن عاونني هو يلا صح حنوسنسة حنون كان وحود متى آخر كي إما كائنان تنهاية dawada haddaad xanuunku si fiican u qaadato toos u qaadatid waad ka badbaadsaa ayaamada gool jirkaaga ugu raya xanuunkuna waa laba nooc bali marka anu ka duubayay leeyma sheegin macaasha markan ka duubayay umada uma soo sheegin laakiin hooyada meesha fadhida waxay ugu tiri haddaad imika hadhow ani haysanin xanuunkaasi gabadha qabtaa waanan taabta ma taawasha wax la iskaga qaadaya midna ma qabade 100 jeer ma caafimaadka jarmalka mara waa taabto waxa uu taaban waayo hooyo Soomaaliyeed ilaahay waxa xanuunkaya الله ونحرسته هويدا هذا واحد متى هويدا من عاونين فيديو قاس وحن دوبي مالين جمعة أو محالة هاي ولي ببشوا إنا هايد بنشعل هاي مشان ويسافر وإحنا عسى هاي وجمعها من كدوبة وحن سوق لي برتي ذا محالة هاي فيسبوك لاف كانوا كلام كسوق لي بيش كيجا لامبر كذي وصق قري لامبر كمركا الآن كوا كقري هاي لامبر كواكن الآن كوا كقري وحودا بيا 897 تلفون كهذا وحورين هاي لكن وحكو قرية ولي يوتيوب يقولش كما بقى ما حس صارين بقى هو يدا المركا وحكو دعي حنون كاس ماله وقبلن وسهرة ربلا ورسمه وقبل تلا عن هاي رواية صورانية جوانية اللي متريشرتي هو يدي مركا إن أنتن أيسلت شوكتو ومحال هاي مكان حلي كان أدنى فردو أورك كسر دوبيو إد وحيوتها إنادر لبعض سنادر سدحد بيسكويهن maalin maalmaha kamid ah oo maxaa dhahaayay oo khamiis ahayd markan bariyo kala ka duubayo oo khamiis ahayd mise kala galinka hore jimcaha ahayd ayaa anigo maxaa dhahay tayar bay iga xanuunsanaysay faadimo wadankan bay ku dhalatay saad ogtiin markay wadankii tagtay xilli waxaan tagay wadanku kuleel u yahay sida imika kala kuleelka jarmalba u yahay bishii imika dhaafto kala ka soo laabtay toddobaad dhamaadkeedii muhiimaddu waxay tahay faadimo yar baa wadankii la qabsan weyday farmasi baan ka keeno waa soo muday دawooyin waxaan soo siisay adigu farmasi faleemba lagu soo dhamaato ana xaqi xaafadii ku sii jeeda ayaa waxa isu soo raacay gabadhii iyo laba hablood oo kale ayaa laba hablood oo kale anigii laba hablood oo kale isla soconaan waa lugeynay ayaa iskaga hor nimid meel mijaajid ah oo barxad ah agteeda markaas waxay halkan oo kale marka waxa tagtaagan 2-3 nin baa tagtaagan dadna marka saasoo kale iskugu hor nimid waxay ku tahay alxamdiye ma joogtay maxaa wax sidii lahaa way baxday bal maanta sadaqan aruurinayna waxaan rabaa inaan ku soo maro markaas aan ku sadaqa maxaya nimanku wayna maqlayaan markaa san ku sadaqa maxaya markaas ay ku tiri gabadhii Sahra Rooble ayaa maxaa la dhahayaa waxa maanta koob caana u siiyo koobka caanaha wuxuu ka joogay burco markaa
5,000 miyuha mise muxuuha 3,000 mise 4,000 adigu $1 wax ka yar buu ahaa koobka caana $1 wax ka yar buu ahaa waxaan maanta koob caana u siiyo ayaan waayay naaniyo 5,000 inuu haaban jeclay koob 7,000 buu ahaa koobka caana $7,000 uu ka yaraa $1 meel demo $9,000 buu ahaa muhiimadda waxay tahay $1 baa inta iga raali noqda muhiimadda waxay tahay hooyadii waxay tiri markaa maxaa dhahay waxaan rabaa inaad caawisid hooyadan maadaama qofkan hadduu qurbaha ka yimid inuu lacagto ka dadaadinaysa la moodaya waxaan ku yiri okay maxaa dhahaayay wixii anagana qabta markaa anigii familkayga anaa bixinaya baan ku yiri marka familka hooyo xogaa waxaan ku dhowr qoys weeyaan 2 wiil aan walaalanahay walaashay hooyaday iyo anigiyo markaa meesha tagay 5 qoys camal baan loo xisaabinaya wixii markaana qabta baan ku yiri insha Allah aan bixinaya hayay igu tiri tadraxa igu tiri waxaan maanta koob caana u siiyo laakiin waxa kaaga wanaagsan baan niri ummadda Soomaaliyeed aan u soo bandhigno haas wadana soo nimankiina waana dhageysanaysan ummadda Soomaaliyeed hadan u soo bandhigno ila waa gabar jilaa ah oo caan ah Sooraan iyo Jawaan maxay xusin waayeen baan Sooraan iyo Jawaan ragii marka shalay fiidiyooda ka duubanay riwaayadaha la matalasay miina ahayn baan ku yiri waxay 6 bilood hore un bay cabaar la ordeen barti baa laga tagay gurigii kirada waa laga soo saartay maxaa dhahay naaga badan oo deyn kule way daba ordiyaan way haystaan aniga haya waxay tiri maalin kasta daaqad shiidan soo iibinaa ila xafaayad kama awoodno maalin kasta xafaayad cusub ma xiri karayno waxaan ku gurigan deganaa buushka haban saa u kala baray bardajiyay adoo inantii meesha ku calaash cabaar waxaan ku war hadan baraha bulshada galino walaalaha Soomaaliyeed qofkan maadaama caan tahay u soo caawiyaan markaas waxay igu tiri waa okay nin baa soo dhaqaaqay marka ninka intaas ul ah gacanta intaas ul ah ilaahay inta hore uu sameeyay wadadku kan go'ayba markaas yiri waxaan weydiiyay ma sahara roobla qofka xanuunsanaysa gabadhii farwaadaha matal jirtay ha markaas yiri telefonkeeda mi aan lacagta ku shubay markaas yiri 10,000 baan haystaa 10,000 baan ku shubay 10,000 marka $1 meelahaas milaan buu ka yar yahay mise uu ka badan yahay 10,000 maanta koob caana u si ilaahay khayr ha ku siiyo kiiban u duceeno 10,000 buu mobilka ugu shubay marka telefonkii yaraan taas u haysa waa telefon yar oo niiclaaftan ka hadalahayo ha sidii baa marka gabadhii telefonkii ugu dhacay adigu 10,000 caana u siiyo waxba xaafadaha u dadawarin xaafadaha maanta hadaad wareegtid 2,000 3,000 hadii ku siiyaan xitaa iska laabo bacad kuleyle galabtan ku yimaanaya baan ku ri leefan gelinayna insha Allah ummad Soomaaliyeed baa caawinaysa way hebi wati galabtadii baan ku soo noqday markaan ku soo noqday gudaha ay ku jirtay sariir yar looxa hoosteeda daasada loo soo saaray ku jiftay waa la soo qaday banaanka keenay baan idhi dhulkii baan rushay baan u dhigay Allah ya raxmaan Allah u naxariisto waa la soo qaaday fresh yar mise cawbay ahayd inay cawhayd baan u malaynay fresh bahaysan ayaa la soo seexiyay frashkii markii la soo seexiyay gabadhii waa u yeedhay xamdiyay gabadhan xanuunkaas haya xanuunka iriska la dhaha ku dhacay ma raba iyada laftigeed in dhigta ka maqasho marka filinka duubaysid iyada xanuuna kaliya gastri waxba ku qarxay baan ku niribay tiri marna niyad inaan ka dilo la socon hay soo saarban marka ani waxaan aqaanay Sara Roble ayadoo hilib leh iyadoo ma sha Allah 7 sano ka hor marka xilliga aan wadanka ku laabtay 7 sano ka hor bay oo aan jaar ahayn oo dusha sare ka aqaan sahal ka bacdi inantii oo maratay eber la gargaranayn timi laga xiray finish labadeeda ilkood kaliya markay kala qaada aad dirinaysid ayahay ka bacdi waa saasoo kale madaxeeda u fadhiista saa markaan u eegay ay saay markay igaratay inaan xamdahay way ooyday marka ilmadii baa ka tiftay saas ilmadii ooyday saaha عمدي عشان حضرك يقوي سوا صار سوا يقرأنا لكن فينش قفت ما هذا كرت حوجا هذا حضرك وكسر بحيي ماذا حنسا أو صلاحي وحنقول والله نانسا دول هيكون قرن وعد ما نسوا قبل المركة أوبد ماله قبل الله ونحرستين قبل دي أديكوا تلاف كم صار يعني تلافن كي بنقول صوت سيد إما كإنام تنا وكلام تلافن كدوش زرا وساقرا تلافن كدوش زرا وساقرا مركة هذا أنا قدرت يراها أنا وكرا حمدين وقنيزة تلافن كيسك مو قردنا أفريقيا شوقي تلافن كي دي بنقول القرآن ترى حركي بقى أنا جوهوشي ودنا فيلين كي كتير نابت تلفين كده تدخل صوّع تمام إلا واقف عانه وبري برشيد كتير طلعوا جو روايدها متشي درك روايد ده وحير أنا كتير سجنيه قادتك قارب أنا قرين إن ده كونفورتو كلامية قانا رالي النقطة ده رالي النقطة هذا فكرة الكونفورتو كلامي أنا أقول الروايد بدن بيعنكو أهيد إلا هي يكون حريص هذا قنية قارة رحمانه رالي النقطة ولا لين ولا وحير بين تصيح روايدي دودون توكله روايدي محل ده تهريب توكله ما فهمتين لا ونحرسته وما الصوماليات بحقوق بطي عندك الأحوال وما يقبلين سوراني شو أن أنت نواد نشفتوا يقول هالمال الوقت
نصيحة بان نوجه تقولوا سوران ويسود جوان ويسود ويموت ما شاء الله ولا لك صاحبين سوران ما أنا أركن الجوان مركب مهمة واحد طيب رواية ده وحيرك تصيا عشان ده كان داعية ده كان توجد أيان إني شاكينيا وحير سوق قفا يسوي ولا رال نقو وحير سوق وإن شاء الله وكاغا من دورة وحير سوق ما ماذا بتشي كده مرة وين أنت صح رال نقطة يعني بالرواية ده هي متري شرتي سك الرواية ده بدن بيمتري شرتي كودانو يا إن كستا وحيسين بيدن جلسة رالي نقطة بليس أنت يداون رالي نقطة ولا شيء كذا قصة حنا كل وين دم استريا كودا سوا دبتي سي شرف له أم بالجله أو ماموس له بأنا لوجو سوتشوا ما شاء الله أتا هلا أنا حريصة أركب وش كباشا أنا برهان نقدني أنا ران قرر geerida dib meel kasta haysata youtube si kasta dad ugu qortid si kasta dad iyagu ugu qortid geerida dib soo boodsan moogta qofku markuu caan yahay waa sidaas ma sha Allah qof kasta uu ka hadlay waska badeena waa fahmaysaan riwaayada dudunta kale waad fahmaysaan riwaayada maska kale waad fahmaysaan ya walaalkayga xalay daawanayo ka abaan hore marka leefku ku jiray waa ka riwaayadaas uu la matalay iyada وكا وذي أبهي دليوية وعورت كيغا سوراني جوان بروا هذا المتلا سكوا وأكو حديدي على كل حال وكوريتشننا سوق كوريتشننا شيء كذا إني دمستريا واي سوق سوران نقدر وين حاسيين بسنكا ما يتقطع مسحن رواية دي ولا يتقطع على النقطة مركا مهمة واحد تاي قبل ولا عاوية أنا قول ليف كوتشرة وحتى إسلا ليف كوتشرة أي تتصوعين دنيرتا سومالي لان شوكتا $5 $10 ما شاء الله تلفن كدريق دو وان إغناس العقد كوسو عطا كوتا كون الله كا بقول كون الله انت هاسي العقد وردسي ما شاء الله قالين كي هرنا كوب عانا لولا إسلا هبين كيبا وكتجي واسسوا مع سلامين ريركي واسو تجي صبحي waxaan soo aaday xalka hargeysa laba habeen dib u soo hiday diyaarada iska soo raacay jarmal baan imid jarmal markaan imid waanigi baalaha ka rifay jawaan iyo sooraan askax waanigu ma garanaysa jirbaha u aasay fahamsan okay muhiimadu marka waxay tahay riwaayadaheeda xaqa ka dadkana u diiday qadku ka bacdi adu hadal yaana kugu daalinay riwaayadaheeda waan aragnay wasax weeyaan walaalkeena thank you muhiimadu waxay tahay hooyadii waan iskaga imid halkan baan imid bisha 15 markay gaadhay 15 steedi bisha ayaan diyaarada soo raacay 9kii Sweden baan ka soo degay 10kiina waxaan ku soo hoyday jarmal oo Finland baan soo maray adigoo sharci markay si joogay gabadhii ayay maxaa la dhahay ay geeriyootay gabadhii markii 15kii bay geeriyootay bisha 7aad Allah u naxariisto gabadhii markii wali waxay dhimatay salaad subaxii nimankii aan caawin jirin sooraan iyo jawaankii xilli aduu hargeysa nala suga meedkeedu aniga xaga ma ka xanaaqaha la sugina aasaban ku rumad Soomaali lacag ma soo dirin Soomaali meel kasta joogtana lacagta dhagac lagu soo isla markay waxa daawatay inaan la dhaho filsan Axmed inay taan jeclay mise filsan kaba ducaysay labada hablood ee ka khaldama Amerika joogan Bashaara Cali Baanda ila soo hadashay iyadana waa caawisay lacag baa waxa loo sameeyay akoon lacag 3,000 ay arooriyeen maxaa la dhahay qolo kale toos bay ugu yimaadeen lacag 2,000 ay dhiibeen adigu ma sha Allah xogaa wala caawiye waxdeenkii baa laga bixiyay wax ma garanaysaa axankeed si fiican oo sharaf leh loo aso walaalkeedii hooyadeedii aabaheed dhaleen gabadhaas maxaa la dhahay dhimatay wuxuu yiri maanta cudurka lagu sheegay naya ka yaxa guba ciirteena ka fadareen hal gubo walaalkeed markay dhimatay wuxuu yiri hantidii lacagtii la soo diran doonaya inta adaka calaykum salaam soo dhawaada insha Allah iimaan walaal soo dhawaada soo gashay ma sha Allah farax sidoo kale muhiimadu waxay tahay adigu qisadii waan ka soo gudubnay
gabadhii lacagta u aruurinaysay gurigeeda joogtay ayadoo maanta aan waxba haysanin soo qaadatay muddo 6 bilood oo gurigeeda kuna noolay ayaa waxaan ku ri taleefanka gacanta ku qabso ummadda Soomaaliyeed wixii Ilaahay ka siiyo ku caawi hadday dhimatana si sharaf la waas hadday ka noolaatana si sharaf leh ma garanaysaa ayadee gabadhaas u maamul halkaas ay hablii Ilaahay baa noo soo qaadiray waxba maanan haynin waxaan dircishiid waxaan xafaayad u siinan weyne isla markiiba furaash baa loo soo iibiyay waxaan ku isla filinkii ku xigay waana loo soo dubayado yaran dadka qofka garidu markay ku saaran tahay 40 habeen buu qofku mid socday hala dhaha Soomaaliyeed ka bacdi adu hadin ku gudaalina waxaaba stafi soo tiriba inantii yaray inantii marka maxaa la dhahay ay imaadeerka hayeen inanay dhashay oo marka hablaha ma sha Allah oo guri loo meesha la degan oo hooyadeed caawinayso islaantana habriirteeda wuxuu qabanayso la caawinayso ay soo wacday xitri xamdiyay naag baan soo wacday haya naagtu waxay tiri baydhaban jooga waxay tiri sadaqan raba inaan la baxo gaari baan la baxaya sadaqa ah waa sheekadii hadda marka hooyadii inanka jareerka ku dhacay YouTube-da ka daawatay waan filaya waxay tiri marka gabadhii waxay tiri galka waxaan joogaa bay tiri maxaa la dhahaayay meeshi baydhaban jooga waxay tiri waxaan rabaa inaan gaari sadaqa la baxo gaariga afgooyu jooga waxa loo baahan yahay shidaalki gaari ku soo tagaa marka $300 shalay bay ahayd anaga markaan ugu dhahan gabadha marka gabadha way nooleed waa intay nooleed waa intaan soo degay isla daqiiqadiiba markiiba qofka baraha bulshada marka lambarkii la soo dhigo fanaaniintii oo dhan baa kacday ummadii oo dhan baa istaagtay lambarkeeda meel kasta la galiyay tuugada marka Soomaaliya joogto qofka masaakiinta la caawinaya telefonkiisu qaadanaya magaciisa saddexaad barti ka qoranaya taas u wacaya waa tuuga kale oo Soomaaliya joogto marka oo dadka marka hooyadana walaa xalay markaan daawaday qoraal dheer baan qora waa sax baan ku soo xasuusta tii reerkii ku dhacday ka bacdi waxay samaysay waxay dhahan gaari baan ku sadaqaysanaynaa gaariga ha loo iibiyo hadday dhimatana dawaka hadii kana gaarigaas anagu waa iga bixis wuxuu joogaa afgooye wiil baa soo kaxaynaya shidaalkiisa $300 soo dira deeqdad Afrika iska jooga iska masaakiin oo gaari aha gaariba hadday dhimatana aan u iibino masaajidada wuxuu ugu darna hadii ka aduu qofle dhamaaciyo reerka galo $300 bishwe $300 baa ninka telefonkiisa lagu shuba haddana biriyo kale ay haddana soo hadleen markay maanta marka shaqo kale lacagta u direen maanta kale aniga ila hadlaysa saan ku raxmo ku sheegaha dad tuuga baa jira dadka dhacaa jira naagta gaari ku sadaqaysanaysa qof masaakiin ay leedahay loo iibiyo ayadu ma soo iibiso dalkay joogto ka soo iibiso lacagta marka xawaalada ma soo dirto laakiin gaaraan bixiyay shidaalkii maxaa dhaa soo dira wax ka jira ma leh waa tuuge saasa la isku dhacay qalashubada jirta islaaliya baan ku reerkay in yarka bacdi hadana intii igu soo celisay xamdiyay waxay tiri habartii gaarigu wuxuu u baahan yahay taariko gaarigu waa la soo kaxeeyay taariko u baahan yahay Soomaaliland oo ku soo galo taariko oo Soomaaliland ku soo galo ayaa loo baahan yahay oo dabeetana $500 soo shubtay miyaa shubtay aan ku meeday aday ku talaan ku aniga waxaad moodaa inaan lacagti aniga bixinaya marka la iga qaadayaba ani waa cadhooday waa girgisho wax kur maxay naga khaldan عليكم السلام حليمو ياسين سو دواده سهر سو دواده walaalyaal soo dhawaada si waa ku salaamay ma sha Allah fayso waa ku salaamay iimaan sidoo kale soo dhawaada walaal muhiimada waxay tahay gabadhi waa ku qeyli waxaan ku aniga habar dhigaysa baan ku yiri waxaan sadaqad weeyaan tan inay dhimanayso in kale Ilaahay ba og marxumadan ma fahantay waxa weeye lacagteeda kafan uga dhiga kawlkeeda uga dhiga waxa ahankeeda u raaciya laakiin ka jooji lacagtana aad leedahay xamar iyo dhul baan ku shubayna dhul iyo dhul dad ba gaarsiinay gaariga naagta day sheegayso soo iibi ku dheh waxay 500 hadana ka hadbatay 300 bashay ka cuntay saad baa markaas 300 loogu shubaya telefonka raxmo ku sheeg oo habar dhigayso codad bay soo dirta telefonkii waa aniga bedelay aad ogtihiin telefoonada iska bedelay hadda codkana dhigaysin la xitaa marka inaan baraha bulshada muuji waa ku jiray hadana codadka ma soo dhigin codadkii naagtii leh walaalo soo dirta lacagta inaan ka 500 waxa niman yahay gaadhiga tara maxaa dhaa taarikada Soomaaliland ayaa laga doonaya in lagu rakibo soo dir iyo ninkii xaqan kule maxaad leediin soo dira reerkii way yaabeen naya waa sixir baan iyo blog saara naga gaal inaan tirad blog iyo dhiliba iskugu darta reerkii isla galabkan hadlina habeenimada salaada subaxay marxumadina dhimatay Allahu naxariiste sidii gabadhi ku dhimatay 5 neef oo ariya si sharaf leh oo aslan ku 5 neef oo ariya u soo iibi ma garanaysaa saddex gabdhood raashinka qudradda adduunka si sharaf leh baa loo as الله يرحم الرحمن هوينك Soomaaliyeed iyo abeesha Soomaaliyeed baan caawiyay shalina wax koob caana loo siiyay way walaalkeed hooyadeed iyo aabaheed leena wuxuu yiri marka xanuunka ku dhacay guba markay dhimatana haararaf inta soo yiri lacagaha dabadoo dhan baa ma garanaysaa lagu baafiyo naagta heer baa dabadoo dhan gaarsiisay oo lacagii adduunka oo dhan baa u soo galay u soo xarooday maxaa la dhahaayay waxaan u baahanahay in maxaa la dhahaayay lacagahaas wax laga siiyo ninkii
shirkadii buu tagay shirkadii intuu tagay wuxuu yiri magacaas lambarka imsa lacag soo gashay shirkadii baa u sheegtay intaasaa ku soo xarootay lacagtaas waan u baahanaa shirkadda gabadhana marka dhaxalka qofka la qorayo nin ay kala tageen marka ay kala tageen xilli hore isguursadeen baa ku qornaaso adigu hadaliyana kugu daaline maxkamad baa lasla gala inantii markay marxuumadii dhimatay inantii hayse gacanteeda ku hayse waxaa lala galay maxaa la dhahaa maxkamad baa lala saara maxkamad markii lala galay waxaan ku iri anaa baraha bulshada usoo gelaya anaa ka qaylinaya aniga ii dhiib telefoonka maxkamadda markaad tagto telefoonka codka ii fur baan ku iri aniga barta kaaga hiilinaya baan ku iri hooyadii waa laisku soo raacay qabiil sheeka qabiil baa laiskugu soo raacay xitaa anaga kaa abdhow hayaay lacag bay haysataayey hayaay soomaaliya lacag usoo dirtayey baqbaqba maxkamadii baa inantii la saaro maalin kasta maxkamadii ballan maanta dambe u jira haddana niman kale soo kaxistay waxaa lidhi ninka ha ka hadhay $100 iska sii waa $100 britol maxkamadda ku dacweyn rabo dadka ha siin oo ila soo hadleen waxaa lidhi ninka $100 siiya ma siinaa oo saad u siisaa shilin ma siin kartaan baan ku iri walaashii sanka ka qabsanaa maxkamadda ka tagtay aniga miisar telefoonka miiska maxkamadii baa la tegay samiiska la saar aan kuraadeen anaga cadeynayna anaana soo bandhigay mid Soomaaliyeed dhan shalay buu ka carara wallahi wada cad baa laga mariyay wada cad agteeda soo marbaaleer adu lacag yaro 800 camar ah baa u soo hadhay markii wixii ku bixisay adigu deynka ka bixisay mid gogol lahayd mid raaxad lahayd mid wax ka soo qaadatay adigu ay ka bixisay oo axankii 5 neef oo mid $100 lagu qalo $500 ma sha Allah adigu wax yar baa u saaray lacag 800 san u galaabay tiri amba majaajidada saqowgi adaaba sadaqa u baahan xataa majaajidku adaaba u baahan baan ku iri adiga soo meelay xarkeeda soo dhaqay soo ahay soo rafaadiyay adiga u baahan adigu qaada baan ku iri waxaad u siinaysaa buushkan aad ku jirtida iyada kula huruday sandaqada yar ku dhisaha reeriisan ku iri walaahi sidii reerkii alaanka igu soo bixiyaan muhiimadu marka waxay tahay way jirtaa dad tuuga ah oo Soomaaliya jooga oo dadka sida u dhacaan ما فهمتين إما كهويدا مركن حالي دعوي فين كمان صح حسوستا $5 أنك هو صادره محل هاي صادر محل هاي قارن لو وش قيستان كو صادر يا هاي وقصة قصة ولا لا قصة دعوة عمر ولا تعالي سحالة عافمات ويل كيدا أو جعلس كيك صوتوري بونددا laba qof oo isku bahaystay dhaca ayaa ugu horeen waxa lambarka maamada soo wacay haweeney oo iska dhigayso inay caawinayso wiilka bukaanka iyadoo sheegaysa baabuur hoobi uu ku shaqaysto haddii uu caafimaado ee u soo dhiibtay iyadoo ku xirtay qof kale ee iska war haabay halo walaalo bulshada walaalaha waxaan idin sheegay xawaalada waan la hadlay inuu iga sii diraa ma ogtahay haye magac aad meesha ku soo qortay kuma gelaysa last name waa in lagu daro waa nuur inantii baan la hadlay de waa nuur walaalo waa nuur aniga Facebook aan ku qoray laakiin codkeeda ku sheegtay waxa la dhahaa kiin nuur ma maqlay adaan maqlay abay waxa la dhahaa waaniga iyada adiga intaadan isku soo qaban intaan ku soo qaban baa iyada soo qabta waxaan ku yiri xawaaladu dadku waxay weydiinaysaa saddexda magac ee magacaaga saddexan sheeg videoga marka waxay igu tiri waxa la dhahaa kiin maxamed nuur nuurkii baa lagu helay saakeeda nuurkii baa lagu helay marka waa ku kaas ma sha Allah baaya thank you ma ka wada fariisanaynaa arinta marka imka live ka baxday ila soo hadal waan ka wada fariisanay sidaas waay adduunka walaala lagu yahay aakhiro walayna waxba la isku hay may waan dambaylaynaa magaalada dajirina wax walba waanu helna dibta ay haysata waxay tiri waa caruurtii tolkoodii ayaaba iigu daraba de waalayta koray tiri waalayta koray bay tiri sidii dadkii baraska lagu sheegi jiray moodaan wax intay saa ii taabtaan rinji raacayo kale inaan ahay aad weyn waana runteeda may waxbaan u qabalaynaa insha Allah taasoo umaad wicin walaalo sadagaha kumaad maqlin waad maqlaysaan walaalahana daawanayo way ila hadashay ilaa imikay ooyaysa gurigaanu ku xidhannahay caruurtii banaanka hadday istaagtabay magaalado dhan ba isku wada tilmaam safarta ku fiiqasabay iskuuladii waa laga soo saaray arigi waxa lagu soo qoray maxaa dhahay xanuunkaas aad leedihiin hooyo Soomaaliyeed xanuun ka calaamadayo runteeda 5 gabdhood soo baxaa reerka ku filan $20 bishii hadii loo diro ayaa wallahi reerka diradooda aad weyn wallahi taasaan been ahayn hooyada Soomaaliyeed han caawino waxa weeye aan isku dardarno waad maqlaysaa $20 wax ka iska daa 10 dumara maya 10 dumara mid $20 xitaa waa 200 karadii way ka baxaysaa la naafarta ana waa ku jira ana maxay iga reebaysaa baayo ha iga reeb waa ku jira bisha kasta diyaar baan la joogto ma imika anaga wax qiirada Soomaalidu qiiray ku shaqaysaa maanta quraata waxeeda waa in la ogaado guddi loo sameeyo hadii meel yar loo xeeri karo
wax walba magaaladay degaysay wixii oo dhan waan soo helay waxaan ku halkaaga deg afkaaga hayso hayabay waa sax weeyaan adduunka walaalnimo walaal haye kicilana meesha boorkan ka qasana aakhiradeena ku sii shaqaysanana aqoonta dadada carruurta aqoonta baan ilaahay ajar uga dhawaanayna ma sha Allah anigu waan ku jiraa waan ugu tagayaa marka sida diyaaradda uga degan waan arkaynaa baan ku insha Allah ilaahay idankiisa walaasha ilaahay baan ku leeyahay waad maadsantahay walaalo haye waxba is oran xamdi baa soo fadhiisatay lacag guraysa lacag ma guraysid maamadii baan la hadalno afkeeda lagula hadlaysa waana soo arkaynaa adiguna qof kasta oo dhibaataysan walaalo bulshadaada u soo dhig maya sidaas weeyaan diyaar baan lanahay inaan hooyinka Soomaaliyeed caawino صدقت وحال لقولي وودكي أو كوسو صعدات ترسل موي أنت أساسا تبكى على عرّ هذا وين تاسم بينهم $5 $2 $6 وحبي أتريا ها هذا إنك وحبي إنه ما تريان لكن يده وحبين بأتريا ويده أباهن ما أنت والله $1 كوحي أبي بتر ما أنت حد برتوله وين واحد برنا ولا أحسن يسمع حمدي because حوالد بروهم بيكون عيسى ما أنتوا كم دعيس يا واتساب كان كلا سعينا ما يدك بالشدة وسو قد بأبديتك ولا تدك أبديتك كفرحة صح علشان عدينتا عدي أنت سائل أنت أنت دي قاعدة ولا على هيدي صومالية صح وين ده ما يد ورقة كسته ما يا واحد كسته عدينا واحد تهاي سيدا قلوب كان كلام حال هذا المدير أنت نص مينان وقولنا إن أنت هرلعكتا قف مركو لعكتي لقد دهبلها سمك إيمان يفاضوي هبلها دريك مديه مرايكم بالأدري لعكتي وحيت إن أنت شرمك ويجوب حيسا أنا جالس أضحك كونين على يبيعين ربا عشان شرعي يجوها لما محكمة دنا وجبت بعده عبد حكيم وأنا قلت شرت دواد ركتي عبد حكيم بالعكت الغشبة لمبر كقف مركو الدرا مقعي هو يدا لمبر كيدي قف كيدري مقعيسي يا مقرن سهوليسي بقى قرن ورقد يعدينه ماشي صادقيا ساسا كلام حكينا إن أنت وين وصفر استعبتي حبريات بار ما ينك وين أنت وصفر ما أنا أوجد بينايا وأنا مقلد أنا إن شاء الله أنا أوجد بينايا هذا أنا وانا سوق بنينا بس سوق ورب النوهم بنحط سوق بيننا سوق يقول أشر اسكوت تاجنا يقول أشر سوق عبد الحكيم ده بلن بعاوية يقول أشر وانا صوابك قال لي حين ينابا عدنا ساكو عينابا ده حلو لقيت بقيني يوم تشوفه وين وصفر استهوا يدا ها بون وحسية والله وحب الحسدي إن آخردي ومساجد أوكله وأنا كفى إيدي سن ذاتك قربها تشوفه يدك وطنك وحكو هايستو $5 والله وحيتري بريتو لو إيه لعب عروتي مقالة ويكدو وانت بتسانو أجنة هذا وين عبد الحكيم وحاول لمبركا وقرن لا يبلا ويقدر عياي بل إن شاء الله أنا ساكن سوق مني هاي وعد مغلسان وإذا Soomaaliyiin تلفك كتير نبي لحديدي تواصل لحديدي ما شاء الله تبارك الله أفكر ترمل شوقة يسوعي وياكل أمريكان شوقة يسوعي مسوا كندا بلهم كعليو إن شاء الله أنا قف كي هذا ويسوع جروب كان جيليا قدام حكوسف كريه قالوا هاي كي وانكوسف كريه جروب كان جيل موجود جنيو وأو حوبانه هو إذا نعاونه إلى قبيل ما هو طعذر قدعة عذر كهذا يوطي ودعا إلى قبيل ما هذا بحتى قبيل إلى موضية صودا وهبر هلو صودا ولا فكتير موقتها والصوع علي وأوجه هاي لافك أنا كصوع عي مام وحن كلها هاي أنا thank you so much مامو أنا وحن ضدك كعد سنة يا لقي سنة يا حمدي خوي ذا صلوا كعو أن لمبر كذا وان قرتي وان وعايا وإحنا وقدرايا بالكستنا وحي عن هاي اللباتنك أيادي قريسة وصاص وحوي لباتن دو مرام من لباتن اسكو قراينا قبلا وافر $1 رير كبير كود وبنانك ها حات مريكان كان جوجا ايوا قدرا هاد بري والحان قطورا تليفونك لكن joogtada bishana 20 adigu qoree waxaan ku sheegaa xamdaay dadka cudurkaas qabo gabartii ma ogay gabartii uu soo dhigay colaad ee dhahay maxay haldan programkaas qayb weyn aan ka qaatay qayb weyn maamo ما شاء الله waa ooyay markaas hadda waxa waaye mareykankan joogaa xariyaha qaxootiga meeshaan waa la istakooraa markii runta la isku sheego ayadoon wax la kala saarsaarayn oo qabiil la jeedo waxaad igala soo xidhiidhaa WhatsApp-kayga dhinacan waqooyiga dadka waa karkar manay warka maqlaan dadkii waa waxoogaa qofta qalbiga laga dilaa gabartii mahan ku jirtana waa u duceeyaha adna waa ku duceeyaha dadka gabdhaha mahan ku jiro ayib waa loo soo fariistaaye tabaaleynta ummadda ha loo soo fariisto maamo bal imika teleefankayga maamo intaan hadlayaan yuruyuuda meesha ka hayaan qaylinayo
ويسحري جري قبب دي وعي يبلايو يمحنات يفضل وحاسي سومال برتعشا abidkayku ma soo wicin bariga waana ku dhageystaa saaxiibaan kugu laa كور دتك wanaagsan waa kuwan soo qadimay hadda ha waa isa taniya barigan ku soo wacay mina soo dhan jooga maamusee bol xaafad la dhaho bariyan horta dhac ku siinaa ta tuurista bariyan ما شاء الله ilaahay baa mahada iska leh adina joogta waay aan jira 20kayga dadka waxaan ku dhahay hargeysa dadku caawiya baraawan dadku caawiya muqdisho dadku caawiya agoonta dhaxda u xirtaa ana waa tuurtuura mushaarkaan shaqaysta ilmahayga waa ii koreen ayeeyaan ahay walaxay ii barteen aase waxay dhahaan waxay ii bixiyeen naxariis dhaakaan asaan dhahaa saas way keena 20 aan ka soo gurbiya asaan boqolkii inta dir waji qof aan ka rabo mana ku faanoyo laakiin waxay dhahay maadaama maama xero qaxooti aan soo maray baahid soo maray American inta soo sala joogo taniya bariga anoo soo foodaya nin igu qoslaa soo raxad ku qoslaya soo yiri qof weyn oo mari waa weyn soo foodaysan balaya buu yiri oo saan u eg marka dadkaas ama dhex joogay qof xanuunsan dhexda loo xirto xamdaay waxa way albaabkaaga ku khayra soo siimanad agoon wuxuu aruurinayso ما شاء الله تبارك الله ما يعايه يا قبيالدي يا بلايس إرينيس halkaas san iskaga saar iyo warkaas iskala hermaande waa ku duceeya xad ku falay dadkaana noo baahanay yaa xad ka sheegay dad oo Mareykanka joogo lacag haysto shaqaysto malaayiin haysto aruursanayo guryahooda ku jiro daadka safka siinayo nabiga caynaa calayhi salaatu wasalaam nabadgelyo naxariis ku tiisa haatay aaba lacag raadihaye aadu waxa ka rabtaa war iskala heraan ku hermaande haye waa ka diyaaraan haya maamu هيا ماما الله يعزك bari markaan waxayga tuurana bishayda waa 20kayga nabri 20ka toos ma ugu diraa mise adaan ku soo marsiyaa maya aniga wax la ii keenayo ma jirto guluub baan sameynaya guluubkaas waxaan markan guluubka walaasha caawi baan ku qoraya waa mid baa dulmadiid ku qoraya in laga caawiya ka markan kugu soo daro markaad biri dirtid lacagta ha yaraata ha badnaata ha xishoonin marka aad dirtid rasiidka dhageyso hooyo rasiid baa lagu siinaya khadka lacagta dirtay taariikhda magacii qofka rasiidkaas screenshot ka soo qaadsa guluubka soo dhigaysa ma fahantaa hada anaga dhan khartibaan ka nahay ayadii lacagtu helaysa wasa haye maanday fiiri beritood markaan diro waxa aan diray magaca waa qortay magaco saddexan maanday sabrud igu soo qarxay magaceedu nuur maal qaha gabadha maya magaceedu saddexan waxa la dhahaa kiin maxamed nuur baa la dhahaa kiin maxamed nuur waxay joogtaa burcad ku qoraysaa burco way beer waa tuulo ma leh waxa waalid intay joogtaa maanday burcad ku qoraysaa bas bay soo raacaysaa bas baa u kala shaqeeya ha waqooyiga haye وحكيم بعد قريسة كين محمد نور بعد قريسة وهو صوماليات دبعتيسن تدبعي على هاي ستة أشري حسنات بدأ يقولون كهيلسة أنا قلنا كهيلة ده إلى هاي نورا ماشوا كعيلين وقلت كين هاي أها هاي محمد ترى كين محمد نور بالها هاي محمد نور هاي ماندي نور واكو كاسة وسينا أي نص قطع. جك أنا بريكو سيها لكن بيش بطل ما هي يا. وحبا مالي بيش عند ما بتشك على وضع سيا أنا قدام بتشك زينة إن شاء الله. ها بعد ميا بيش مركي نوبة ما تهدى مدوي تام مركي ضدك مركي ولا حلا طورة هدا أو هي هدا ببا هنتها من مايا بيش هاي نوبة بيسو هدا وحوي وحكوني لهاي يا waxay ku aqradan tahay ay mariya siisan lahaayeen bay u baahan tahay dawadu waa bilaash dawladda siisa marka inta cunto ay qaadato inta markay qaadato bisha dambe sagaalaad inan baa Mareykanka duulaysa oo ilaahay khayr ha siiyo xaga naga daawanayso umka inaan soo qabano dahba hadashay hooyadii hargeysa ku socota inantaas ay inoo soo magaranaysa gabadha soo raraysa hawsho dhan yadan lacagta marka toos ugu shubayna inanta markay tagto telefonkeedana waan haysanaa WhatsApp kaasan ka wada xidhiidhayna haye maande waa ku duceey WhatsApp kan jagan soo siiha bariyaan wixii ilaahay iga soo qaadan insha Allah hal fariinaan dira fadhiga laga kaco $5 ha la xishoonin 10 ha la xishoonin 20 ha la xishoonin kontan ha la xishoonin ballan waayaan ku dhahay minaa sadaqa bixisa albaabka way ku soo garaacay ilmaha kugu fiicnaanay caafimaadaad ku helay waa la ogaaday malab iyo waxa waay dheeman waa sadaqo ma sha Allah maam hay thank you waka hooyinka Soomaalida dhiig laha waa kuwaas waa guluubka haddana inii sameynaya hadda ha cabsanina waayahay lambar kale jarmadan ku celinayna waxa weeyde inaga dan leh shacabka inaga dan hooyada waxu aruurinayna waa ku celinaya oo ma ku celin jira dadka ma wax karbaashay
لكن هذا هو كعلينا حيق سنة واكو سلام حيق سنة صدقات قصة قيب قال صوق الكائن يا صوق قبصو هلا ولا المهم قشان جرملك الله يفكي واكو جرا تواصل على ومحاد كلا قيب قادين السهوية ذا دباتيسن ولا معاه شكلتي سو الله يفكي سيبو سوي تيام حالي سوا حتى يعني جوا هنا ولا في كجرة وانا إلهي قانا ما يبايك ما سوى الفرطة إذا قابع أوكي دي ماله فرطة كوكو دعي هوية سومالية حنونك إيريس كلا ده كوكو دعي إلا ما يرى أغونا تدبع يالا هايستا سو جوكتا محالا تولا برعا ودو ديباتيسن ما قارما وحما كو درسان كرتا هوية دا سوى ناكسن تسوى ناكسن وحما كو درسان كرتا لباتان دورن الله كديك هوية دا معنا لعاونسا هوية دا سن اوكا عيناي أبايي معنا إن شاء الله حدي لهي ماذا كالا سو حديدا واواي وقف السنة وهذا الوناكسن واتدك بري هore telefoonada saf garasay iska soo kay wacda bal qofkan kale ku celinayna hadda wacayay waa isif garasay qofkan waa eegina dadka iska soo kay wacnaa naxay saray soo qabso walaal leefan ku jira ma la socota waa ka ku soco walaal waa ka dadkaas u baahanay dadkan baan u baahanay kiina isu ku soco aad baad u mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinayaa dadka dhibaataysan dhib ku haysto oo aad garab istaagta mar walba xambiyey kuna soco arrintaas midada kale arrinta muqdisho ka dhacday islaanta masaakiinta dadka tuugada oo soo waceen arrin jirta weeye marka adiga laftigaagu inaad dadka uga digto dadan ilaahay aqoon baa jira inaad uga digto sax weeye waaniga da u sheegay walaalo waa u sheegay sax weeye ayaa loo baahan yahay marka walaal ficilkaaguna ficil wanaagsan weeye oo garab istaag walaalnimo leh aad baan kaaga mahadcelinayaa thank you guluubkan kugu soo daraya Soomaa walaashaana waxaan leeyahay ilaahay xaqiisa aad wax ula baxdeen walaashii baad ku caawiseen sadaqa waaye marka ilaahay hadin barakeeyo waa ajir badan baad ka helaysaan hala is caawiyo ummadda muslimka waa is caawisaa soomaaliduna caan bay ku tahay inay is caawiso waa og tahay markii abaar dhacaan markii dhibaato dhacdo meel kasta soomaalidu ilsay isku gurmadaan waa og tahay gurmadkaas unbay kamid tahay walaalnimada ah maasha allah walaalnimada ah ehelnimada ah maasha allah marka aad iyo aad la isku garab istaago xamdi adigana ilaahay ajar badan ha kaa siiyo maasha allah thank you walaalo ma hadsantay inagoo dhan ilaahay ajar badan inaga siiyo guluubkana kugu soo daraya ku salaamaya hayo walaal macaan hayo walaal wuxuu yiri Umar Usman guluubka aniga iyo caruurtayda oo ah ya caruurta nagu soo dar 8 wiil iyo 4 hablood maasha allah waa reer shaqaysta 8 wiil iyo 4 gabdhood waa 12 qof oo isku soo dardara mid $20 imse noqonaysa de waa bad waa 200 iyo hodho wariya ilaahay yaqaana cumaraw teleefankayga de waxaan ka codsanayaa xiiqsan iyo hablaha meesha ku jira iyo ma garanaysaa ayada intii meesha ku jirta de inaad lambarkayga ku soo qortaan meesha dadka dambe soo galaysa u qortaan waa lambarkayga maaha ka lacagta lagu soo shubayo laakiin guluubkan kaaga soo daraya waa guluubka waayahay kiin oo isku magac yihiin baan wacayaa gabadhkiin la dhaho Sweden joogtay iyadana soo wacisay intuu ku hadlayay kiin baan toos u galaynaa insha Allah waynaka kiinay qabade gabadha isku magaceeda tiina talii waaye soo dhawow hawri horfaadiyad baan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو dhawow هذا يروان مقلي كل ينكسر شكله دحية كسر قلي لكن محمد ضي وميدا دبعة ما حين كجنا هذا واحد بوسو قرية حندوني أصلا بوسو دوبي يوم بدي كسر عليسي هاي وحندوني أنا قلنا ده جروب كيبو دار أنا بديار بانو هذا يربي كستا وحلالي في محمد ضي صدقة محمد ضي آخره باي qofka waalidka ama tolkaaga waxa siin kartaa laakiin sadaqadu waxay ku fiican tahay qof هذا قولي markaas oo baahan oo dad ilaahay ku caawiso هذا وين ما شاء الله yey ku fiican tahay marka anigu diyaar baan awriyar waahay maxaan dhaqaayay groupkan maxaan dhaqaayay inay u soo dar waa ballan insha Allah numberkeediina waa qortay hadda
waaba samidaydii ya bare xamar bi هذا وين اسمه مقعواتي واسمي دايدي وصح ويا هاي أجر إيه حسنات بدنا هكاسي يا هبرير والله قفك أنتو محل رضاي أنت هبدا أتسمين سوح كستو ليش سوق ليش هكا قاعد بدن هذا وين ما يتاسن كنت لجنا هو يمكن سومالية ذي باتسنا تشد كل علي يا حتى هنا مد كلا قدر ما يوتيوب كوكو أركا يدنا دبا قلبان كو هاي هذا مid hana ka darano dadka iyada ma cunte waxay ka sheekaysaa balaayadaas iskufsiga hooya kufsaday abba kufsaday walaalay fuulay waxaas ka sheekaysaa tuyaro buuran aan sima America joogta taana daba qalban ku haya waxaas waa been laga sheekaynaya waxba la kufsaday iyo waxba la dhibaateeyay iyo waxba la xumeeyay laakiin laga sheekaynaya dadkan dhibaataysan ee wadankii ku dhibaataysan ama curiyaan ha noqdo ama agoon ha noqdaan maanta carruurta agoonta ay maxan dhaday ama agoon ha noqdaan ama haja ha noqdaan waxa la siiyaa waa adduunka waxa maxan dhaday adigu yaabaatay alshan waxaad ka fikiraysaa ilmahaaga adoo dhintay maanta ilmahaaga qofka wax siinayo kusaab diinta islaamka maxaan dhaday hadaynu aynu ku dhaqano ajarku maanta wuxuu ugu jiraa yaa dhibaataysan yaynu caawinaynu garab istaagno waxaa dhibaataysan ummadda carruurta yaryar ama maxaan dhaday hooyo ama maxaan dhaday aabaha lambarka waa inuu soo celiyay ku soco marka ilaahay ajar iyo xasanad badan habareer kaasi iyo aad baan wallahi ugu farxay markaad programka soo gelisay waana runoo dadka inta badan waxay jecel yihiin marka xanta iyo qabyaalada iyo balaayada laga hadlayo waxaasun baan raadiya waxaan kur telefoonkii wiiqda ahaan jiray يا شيرتي نا خيرك كشق أنا ما أنترك بلا بقى بالشقة كملي حبر سقوسي مدي أنت كبحثنا إلهي ولا حساب تمية هو يوين كصومالية ضد باتسين أفريقيا تشوفن عاونة يا عندك كاري لكنا إلهي أشري حسنا فضل أوريها كاسي والله أصاب ده تركيه ليس أنا كمان وانقو قربت أغنى هوري هاي هورن ما تصلت هوري هاي السلام عليكم هورن نول نمبر بعد يقول سوا عساس ده نمبر كا يقول لي قلوبك كوكو دريا نول نمبرو هالو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نمبر بعد يقول سوا عساس يا وحكو عاونة مركز تلفون كا جواب قريسة هذا واتساب كذا كهواي بري أنا دوما كورة إسرائيل وكان كذا العليني. هذا واتساب كي يقصوا قل واتساب السلام عليكم يقول سقر هذا وحاول يصير أنا الله نمبر متش اللي قف يقول سوا واي قف كان محو قرنا يا نبات كذا محو قرنا يا ما فهمتي فليش يقول واحد شيء يقول سعوت يقول سعوت waxaan ku sheegay oo aniga gabadha arkaysa tagaysa inaad numberkeeda ay soo siiso oo aan marka ay tagaysana lacag ugu diido ay u soo qadab karayso meeshii wax loogu diri lahaa iyo meeshii degantahay la soo ogaado dee walaalo waa sax laakiin adiga marka xagan kaala soo xiriira teleefankaaga waa low number whatsappkayga ma soo gali kartaa khayr aad laha ku siiya khayr baad wadaabeen bal waayahay waan isku dayaa waan baarbaaraya baarbaar isku day baarbaar saa u baarbaar insha allah hay hablaha leh inanta lambarkeeda noo soo diriyo magaceeda ee hadda soo galay walaa inanta waxaa la dhahaa kiin maxamed nuur baa la dhahaa teleefonkana waana ku soo qoray waa yahay waxay rajuma عليكم ورحمة الله وبركاته. marka abay macaanka dadka lacagta ii soo diraan macaanay ama ii soo raba magacayga amdiye abay waa intii la dhacay وين أنتِ هراء أنا عاوني ولا شيء جزاكم الله خير وأركي قبل دايدنا هدا أركي مسك صاد على $10 رئيس ودرتي أباي معانت غير بدن الله كسي ولا شيء معانت إلهي ما شكوا ما تادين هكا ورابي معانا جزاكم الله خير لك وين أنتِ هراء أنتِ دتك عاوية سب هذا صرت قارب عسرة مش سنقرين waayahay waa ka codkan rabay habla ingiriiska jooga maadaama inantan magaceedi meesha ku qorin
maadaama hooyadan magaceeda meesha ku qorin sida makiintan aan ugu qorayn oo kale ayaa dad ingiriiska joogo sadaqada la baxaya ayaa magacayga ku qoray anima Soomaaliyan jooga aan lacag mana la soo diraya ba dhageysto tane باي ما يفي عنتا من نبض قطع حالتك الشيكة عيال سيكوي وقوفي عالي أنا الحمد لله باي سعدي وايا الحمد لله وانكو بسع العليا دقت لكم مجرتد العكس وحالله واينا حمد مقعيد كسو وريجيان او مقعاد الوقرة احساسا جرب الاسوا عباية إلهي ما أقان حتى انتي تهاي لكن way ii diideen waxay yidheen lacag raad iyo sab u soo yeel magacaada lambarkaaga ku qoran magacaadana kuma qorno muhiimaddu waxay tahay hablihii lambarka inanta meeshaan ku qoray dee magacaygina meesha waa ku yaala YouTube iyo Facebook sidii bay lacagta ugu direen gabadhii waa la wacay lacag waa ku taala baa li xawaalada magaca Xamdi baana ku taala waliba magacayga reerkaygu caadi ah ma ka dhigin magaca aabahay kama dhigin Xamdi Galgacal bay ka dhigeen Xamdi Galgacal xawaalada Xamdi Galgacal ila soo hada shii baan yani xawaalada waan wacay koor barqaaba iyo ahayd waxaan idhi waa ku sugayaa bal waa heed fateerba fa iskuulka geeyan ka soo laabta hadda waan loo fasaxay iskuulka waan fadhinaa jarmale ka bacdi xawaaladii u geysay waxaan ku salaam calaykum waraxmatullahi maxaa lagu daraa calaykum salaam inantan lacagta lagu soo qoray magacu waa magacayga baan ku yiri youtuberad baan ahay facebookaasan ka qayliya ummadda Soomaaliyeed baan rabaa inaan caawiyo magacayga ugu soo dhacay baan idhi telefonkeedana ku qoray meesha waa hooyo dhibaataysan xamar joogta please waxaan ka codsay inaan lacagta u siisid waa lacagta cid soo dirtay ma naqaano waa qofkii soo diray aniga ma aqaano yadi ma taqaanto adiga laakiin waad aragtaa qofkii soo diray meesha uu kaaga muuqda laakiin lambarkii iyada leh magaciina ana leh abaar ina ku reexa marba waa ku daawada abaay waa ku taageersanay buu yiri wariyaana war ku xawaaladu lumiino daawadaan wariya ilaahay yaqaan marka ribahay waa ku daawada Xamdi okay wada daawada haasi gabadha lacagtan ku samee aaminsan haasi sidii waa lagu sii marka waa mahadsantihiin meel kasta joogtaan walaalaha Soomaaliyeed jannada ay noo balana inta dumar ii safe gareysan hablaha Soomaaliyeed ka neefin maaye jaq baan ku soo siinaya qolka iyo intii haddaba jannada ay noo balana insha Allah nabaday dhamaantiinba aad baa idin salaamaya hooyadana ma sha Allah dadka u mahad celinaysa kulay hadrada kulay ma dirgin wali qofka meesha waa u baahan tahay hooyadii hala caawiyo insha Allah aad baan idin salaamaya waa mahadsantihiin thank you ayna leeyahay insha Allah hada xawaaladu way daawadaan xawaalada America lacag laga soo diray markaas la igu yiri dhigay xawaalada waxay ahayd tawakkal ma tawfiiqna ma tawakkal MG wali moogta caawo kale MG jafa oo ka dhigay MG markan caawo kala jafay wana aamin thank you oo kala markay igu soo darsada qolka soo igu soo diro caawo kala beeshi MG la dhahay ma jeertan sa u xaf كرباش كل دول مرة ما دي باقي يحسي وين أياي أو شركة جرو محل ده هاي وحوق محل هاي ويلا شير وين ما ينبضلان ترى هاي تتكيجا بربق هذا وتوصل في مك واقف بريبة حوالي العقوت على تبغى العقد ساق هذا وأنيك جوجلها إيبيا والله يصير دري العقد جوجش لبده هاي المركب صدق بقولي مركب واحد هاي أفرتن بقولي تضاعت لو قلت صدح بقولي أفرتن لو قد ريي محل هاي كونتني صدح أقول أكشن بقول ما $1 جالس سبيه تبغى الوقت ترى حوالي دي حالي جيك ولا قصير ما يلعقتي أنا جياب حوالي دي على دي بنفكرينه ما شرتي ما حوالي ده مركزة قولدي halkaasna waxay ku dhaheen gabadha hal la xidhiidho lacagta waxa haysato ku dhagsan garow wala gaga dhagsan qoladii halkana marka u tagay waxay anaga lacagta ma saar karina garow waa laga haystaa sabab garow maxay ii keenay markaasaan garow maxay ala wariya iska dhaafan ku inanka xawaad haysto ma jeerteen wariya reerkina la baytaxaan siyaasadda ku dheeraysan naagta xal ina jafasi habeen hore ina jafasi ayaa lacagta magaceed marka ku soo dhacay ku dhagteen miya ناعل حوالدي ما يساقي هويجي حالك يا جرجر والله لمبرك جرا ولا يسوسي مريك اللي يسوسي لمبرك جرا مع السلام عليكم مركز أقول سير عليكم السلام ما في عنتا مركز ما يساق يسوي كل عادي العادي يسوي أنا مركز تلفون كي وحنشل هاي سيدا هذا بقى سايلنت يجرا ما لا دريمو حتى سوق شو كتلفون كي حتى كسا إذا تزوج عن كأقوم ويجرا على النقطة تبع عد بيجا نقطتين سايلن قليو وقيل ديري هاي قالها ويلها مركا مري واسك احترام dadka siilinteeda iska gashada marbar adoo suuqa mariyo madowga tuugudhe ugu dhiga dalaqada fikraya halkan adeer waa qaal wali lacagta soo socota marka hadliyan kugu daaline waa askool caadi igu soo waceen Soomaaliyeena dadka masaakiinta ku badano kuma bicilin de waxaan waa mid wax ka doonaysa kulli tan xaqiiqadeeda wax ka doonaysa budlay ka soo hadlaysa hadliyan kugu daaline
in yar kabacdi baa lambarkii laysoo diriyay lambarka haddana soo wacay waa mid whatsappka baan ku eeg dhac whatsapp baa buu leeyahay waaba xawaaladii waxaan ku qortay xawaalada garow waan ku qortay rac waaban wacayba السلام عليكم ويل باقي قبل عليكم السلام markaasaan ku yiri walaal waxaad ii eegtaa lacag anigu aan koodkeeda haysto oo magaceedii haysto sidee garow loogu qabsaday ma garow loo soo diray Mareykan baa laga soo diray Jarmal baa lagu soo diray xaq miyaan u lahay lacagtan koodkayga anigu haysto inaan qaato sabab baan ku yiri garow lacagta loo mariyo loo haysta markaas yiri maya inaadir lacagta maxaa dha shirkada garow laga maamulo shirkada garow ala shirkada qof la asaasi u horeeyay malawbaya marka waxa weeye halkan baa laga xukumaa waxa weeye wasaas de waaye ii sheeg waan quraan xalay ina jafayay wuxuu yiri maxamti kalgacal baa marka codkay maxamti kalgacal baa san ha ila de xalay nimba meesha u bugta sago darante bugta markuu yiri maxamti kalgacal baan ya ila wala di garanaysaa jafitaankiina maqlaysan soma xaalad imka ina soo jafaya markaas na horeysa waxa ku tufisad kutuf waan ku daawanaa waan ku taageersanaa marka xawaaladu xitaa way daawadaan xawaaladu sadad ma anaga kala oo mobilka haysta marka qabiilooyinka la ayna whatsappada la isku turtuuraa boogta whatsappada ugu turtuuraan dadka marka muhiimadu waxay tahay halkiiba maxaa la dhahaa yaasiina ka qabtay sugal alo yaasiin la soo wacsa marka halkiiba maxaa la dhahaa inanku yiri maxaa laga rabaa sir sharciga laga rabaa waayo qofka markuu xawaalada lacagta ka qaadanayo systemkiisa gaaladu waxay rabtaa in maxaa la dhahaa annagana xisaab aan socota qolada Mareykanka waxay rabaan inaad u dirtid passportkaaga halkii waxaan ku yiri waariye والله دارود قاعد بن وجفي بريهانه مشرعيغا شرعيغا فيسبوك qofkii soo dhiga beertu galaya wararkaas qaada waan ku yiri baasaboorkeeda kaarkii waan u diraa markuu in yar saa markuu arkay bas hadda eeg hadda dhila uu koobiyeystay anoo la hadleen u dira saas u arka saad u furay wir waan arkay masaxo markiiba delete-kii waa siist saas kula afreesha kala Facebook gobna sharciga gilay keenaya qofka ka qabanayna halo maqlaysa marka halo marka xawaalu way daawadaan على صودا وانجليزك هلو هلو مهمته بركه waxay tahay xawaaladuhu wayna daawadaan oo madaxda Soomaaliya wayna daawadaan ila baraha bulshada waxaan ku yiri siyaasadii iyo hubkii iyo dhicil istilay iyo boobkiiba Facebook ka socda marka nimanka waxay ku dhalmaa inaadeen anaga waxba nagama gelin waxa jafaysid wixii kala fariid baa tahay hore u soco lacagtaadana waa ku fasaxantay hadda ولا امشي بالها توكل ويان توكل صح ويان توكل ويان قروا ولا قال لي توكل ويان حالكي بالعكس لا يصاف الصحه حالكي انكي حوالد وتقسان كراب لعقتك سويلي ولا غدغسين سان توس وعي هدنا تليفونك وهيا inaan bay iga qabatay san kuraabay hal lacagta yeek ma ka sitri wad qaadan karta sawaari soo saar dayfka xawaaladoodaas aan u isticmaala marka aad oo mahadsantiin baal xaftada ma kasana wallahi billahi caadi ma Nairobi wala lacag u dirsanaya marka alaabta aan ku hadana keeniyay dahayda cascasi waxba iga kala dhinaa Nairobi lacag u diraya $1 ama kasaan karo wallahi inaan MJ siinaynin ii raadiya wiil saaqi magaala iga fog bal ku sheeg san kuwa inta u geesid haday ku dhacaan ka waran la iska iimaansa kuwa agana kugu kacsanaadaan marka wayna kaas insha Allah xawaaladuna wayna daawadaan inaan kaasna saas qasadaas xawaaladana dhaxmartay marka aad bayni salaamaya waa kasi bixi rabaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh meel kasta joogtaan walaalaha Soomaaliyeed magaca gabadha la caawinayo iyo telefonkeeda wuxuu ku qoran yahay binka waa Kiin Maxamed Nuur telefonkeeduna waa kaas aad bayni salaamaya wayna geero qosliyay wayna kaas anigu waxaan hayhaa hooyadaas burca joogtaa marka xawaad wax ku dirsan waa burco iyada soo raacaysa gaadho tuuleera burcawda way joogtaa marka muhiimadu waxay tahay anigu waan joojiyay qabyaaladii waan joojiyay caydii waan joojiyay dadkii Soomaaliyeed ma garanaysaa ayaan jafayay taaj maaha taaj waa nadiif ma karaya taaj ama ka taaj wax ku dirsaday taaj waa nadiif ta kala cabaar iyo cunahay ku yara dhigtay marka muhiimadu waxay tahay anigu muhiimadu waxa warka muhiimkiisu wuxuu yahay barnaamijyo badan baa inoo yaala inaan kala yadna dad baafinaysa oo maxaa la yidhaahdaa habeen bal soo gari doona insha Allah u baafin doona walaalada muddo 30 sano ka maqnaa ayadana insha Allah oo Jarmal nagula nool ayadana xalay qoraalka u soo dhigayay wala dhici kartaa sida qoraalkeeda aan u akhrisanay uu yahay daweynakaas nabaday insha Allah jannada inoo balana assalaamu alaykum